haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qaybteenna qaxar iyo dhibaatiya malaa qulub ma joogeene qalalaase iyo may jireen qayladhaantani qabqab dhaafe waagii baryaba qiiq ma huriyeen qabiil laguma dhaateen dal aan qaadigii ahay wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaan weyga horan kala maqnayn marka baahinteeduna may fara badnayn laakiin mawduuca mar walba wayn duubanaynaa kolay sidii qorshayaashu ahaa maaxdu labadii awal markii hore toddobaad kasta anagii u bedelay weegdhaaf marka mawduuci weygii hore waa kii roobku nagaga beegmay caqabaduna waa insha allah wayn dhisi doonaa inta yar iyo inta ku xigtaba marka intaas ma caqabad inuu noqotay caawa waxaan ka warrami doonaa mawduuc xaaladiisu taagan tahay aynu yara moogannahay sida waa maqasha soo bidaar sibiq way kuu gashaa baashii daroogada iyo beriga hore inagoo sakhraanka la yaabi jirnayba daroogista caadiina inagu soo biiray waana burbur bulsho waa halkii ugu hooseysay macnaha haddii bulshadu sidaas ka soo burburto waxay ka dhigan tahay bulshadaasi mustaqbalkeeduna u foolxuy intaynu ku baraarugsanayna waa intaynu wax ka qaban karayno waxaanan aaminsanahay noloshu waxay ka bilaabantaa waa naftaada iyo qoyskaaga iyo intay kusii xigta jaarkaaga inaha kuu dhadhow dhan hadday intaynan hawshaa qabanana wax badan waynu qaban karaynaa shaqo badan waynu qaban doonaa caawa barnaamijka waxaynu ugu martiya Dr. xasan xaaji maxamed oo bartay cudurrada markiisa hore GP-ha markii dambe ku takhasusay cudurrada maanka iyo neerfaha iyo maanka neurologist iyo psychiatrist waa laba cuduroo dadkeenu isku qaldaan inta badan qof kasta waa neerfaha in idhaahnaa marka qof xagga dhimarkaana waxna waa neerfaha xanuunkani saamaynta ugu badan xagga ku yeeshaa kolay dhakhtarka inoo sharxi doonee waa xagga maanka oo waa li yar waa nin waa li iibsanaya lacag siisanaya waa li inuu in yar waasho waxaa kaloo inoo martiya Saciid Yuusuf kolay YouTube-kan dadka egtamada ka arki doontaan waa guddoomiyaha la dagaalanka wacyigelinta ee la dagaalanka iyo dawargoynta mukhaadaraadka isku wada qaad mukhaadaraad oo dhan in badan bay soo wadeen dagaal badan u soo galeen ilaa haddana dagaalkii ku jiraan caawo kale waxaan soo nimid inaynu noqono inaguna gaashaan iyo garab hawsha adag ee iyagu xilkoodu qaaday inaguna dhinaceena aynu ka garab qabano hawsha soo diyaar uma nihin bas hawsha halkaasaan gelinaa waxaan kusoo dhageyn doonaa intaanan Saciid Yuusuf kusoo dhaweyn in nuxurka ugu weyn aynu ogaano horta mukhaadaraadka waxa la qofka libaaxnimaan garan baa la xakarito salama oran marka koowaad horta bal inaynu waxaan dhibaatadu inagu leeyahay aynu barano qaadka hore inuu aragnay sigaarka oo inaan aragnay khamrigii kadalik waxa biirtay oo imka cusub xashiishad waliba magaalada gudaheedana lagu beeray oo qaar gudaafadaha lagu beeray iyada laftigeedana aan jecelayn iyada midab inaad yara barataan oo caawa jeclaa projectorka marka hore inaan waxoogaa ku yara sharaxno waqtigan inoo saamixin aan ku soo dhaweeyo Dr. xasan xaaji maxamed oo si fiican bal inoogu faahfaahiya saameynta ay ku leedahay daroogadu jirka bilaadanka kaasi waa geedka loo yaqaano inta badan xashiishada af Soomaaliga dadku inta badan xashiishka ay fahmi ogin xashiishada laakiin si dunida marka la joogo magacyo aad u kala gedisan bay leedahay intaanan u gelin xashiishadu maxay tahay waxaan doonayaa in yar inaynu fahanno horta maxay yihiin waxyaabahan la yiraahdo maandooriyayaasha asalkoodaba sidee bay u saameeyaan jirka bini'aadanka ama maskaxda bini'aadanka noocyadee bay u kala qaybsamaan inta imaka la yaqaano ee la og yahay maxaa loo kala qaybiyaa iyo calaamado sidee ah ayaa lagu gartaa qofka isticmaala maandooriya adduunyada imaka cilmigan casriga
marka laga hadlayo waxyaabaha la isku yiraahdo maandooriyayaasha berigii hore waxa la oran jiray addictive substances ama walxaha la qabatimo ee dadka jirkoodu qabatimaan haddii ay isticmaalaan marka imanka dunida si casriyooba waxay yiraahdeen magacaas uu yara adag yahayo dad fara badan baa haddaad ku tiraadid waxaad isticmaashaa walxaha la qabatimo ka xanaaqaya ama si kale u arkaya walxii la qabatimiyena laba nooc buu kala qaybiyeen walxaha la qabatimo nooc waxay yiraahdeen illicit drugs waxa weeyaan kuwa aan sinaba loo ogolayn ee aan dalnaba laga ogolayn dawladina aanay ogolayn hay'adina aanay ogolayn in wadankooda lagu isticmaalo ama lagu iibiyo ama lagu beero qaar waxay yiraahdeen waa nan illicido waa qaar la ogol yahay in wadankaasi lagu iibin karo oo sharci haysta oo laysan haysto oo la iibsan karo tusaale ahaan sigaarka iyo khamriga waxaynu naqaanaa alcoholka wadamada gaalada waa lagu ogolyahay in la kala iibsado oo sharci baa leeyihiin oo waa la kala iibsadaa laakiinse maadada la yiraahdo xashiishada oo magacyo aad u badan leh marijuana kamida ganjaba kamida waxyaabo aad u tira badan xashiish ayaa kamida kuwaas oo kala xidhan waa illicit drugs waa walxaha ay mamnuuca tahay in la iibsado ama sharci loo helo ama wadankaasi loo ogolaado inay sinaba ku soo galaan marka waxaan doonayaa inaynu hordhaceena aynu ku fahanno inta ugu commonsan ee adduunka imika la isku waafaqsan yahay inay yihiin walxaha la qabatimo oo ay magacii in yar ka bedeleen waxay yidhaahdeen substances keliyat marka addictionkii bay ka reebeenoo waxay yidhahdeen substances ku hay walxaha la qabatimo laba buug baa lagu classify garaya ama lagu kala ableeyaa walxahaasi la qabatimo oo dunidoo dhan jaamacadaha iyo iskuullada iyo marka la dhiganayo maxaa la yidhahdaa iskuullada sare ee takhasusyada waliba kuwa maanka ama maskaxda laba buug ayaa laga raacaa labada buug mid waxa iskale hay'addan caafimaadka adduunka ee WHO la yidhaahdo buugga labaadna waxa leh ururka dhakhaatiirta Mareykanka kuwa maskaxda qaabilsan waxa la yiraahdaa American Psychiatric Association bale laakiin labada buug waxay ka siman yihiin ama iskaga mid ka yihiin waxa jira 10 walxood oo la isla yaqaano oo qof kasta oo bini'aadan oo 10 ka walxood mid kamid ah isticmaala uu u baahan yahay in laga daweeyo waa xanuun buugaagta waxay ugu yaalaan inay yihiin as a disease macnaha xanuun u baahan in la daweeyo ay ugu yaalaan walax kastana waxa ku qoran calaamadaha lagu garto dhibaatada ay keento dhaawac ay qofka bini'aadanka gaarsiin karto 10 ka walxood hadaynu yara dul marno xabada koobaad waxa ugu jirta alcohol labada buugba ka sameeyeen alcohol waxaan u naqaanaa inagu khamriga weey gaaladu alcohol bay dhaadeen waa ta koobaad ee 10 ka walxood liiska xagga hore kaga jirta ta labaad waa maada la yiraahdo caffeine caffeine waxa weeyaan tanaynu inagu kafeega u naqaano laakiin se xaddi go'an haddii qofku isticmaalo maankiisa bedeli karta qofkuna uu la qabsan karo una baahanayo in dhakhtar loo dhigo oo lagaga daweeyo maadada saddexaad ee lambar 3 ku jirta waa tayno caawa dul istaagi doonee waa maadada la yiraahdo afka qalaad cannabis chemical name-keeda magaceeda walaxda qofka bedesha ama u sababto qofku inuu qabatimo ee u sababto inuu qofku wixii jirka barto oo hadhowna u baahdo inuu wixii isticmaalo chemicalka ku jira ayaa la yiraahdaa cannabinoid baa la yiraahdaa laakiinse waa xashiishada waana tayno caawa ka hadli doono maadada afraad waxa weeyaan maada la yiraahdo hallucinogen inta badan wali wadankeena ma inaan ku arag laakiinse wadamada kale ee gaalada aad bay ugu badan tahay maada la yiraahdo phencyclidine baa kamid ahoo dhalinyaradoodu ay aad u isticmaalaan xoogna u khatar badan oo hallucinogen waxa loo yiraahdo qofku markuu maadada isticmaalo khayaal bay u sawirtaa
hallucinationka afka qalaad waxaa lagu yidhaahdaa qofku inuu wax aan jirin arko ama wax aan jirin maqlo. marka hallucinogeniska maadada ugu sii muhiimsan ee inta badan wadamada gaalada la isticmaalo waxa la phencyclidine. marka qofku mar alla markuu sida dust bala way nuugaan ama wala neefsada markuu saan qofku uu isticmaalo khayaal ba u sawiraysa markiiba. that's marka sababta ugu bixin hallucinogen. maadada afraad ee bugaagtaasi aan sheegnay kulli iskaraysan wax weey maadooyinka la isku yiraahdo inhalantska kuwa ugu badan ee wadankeena lagu isticmaalo waxa kamid ah xabagta. hadda dooxiyadeena iyo suuqyadeena adeegto waxaad arkaysaa inama yar dhalinyaraayo caagad yar kalkan koorka hoostiisa ku haysta oo hoosta ka nuugaya. inhalants baa la yiraahdaa kuwaas oo xabagtan kabaha iyo waxyaabaha kale la isugu dhajiyay ayaa kamid ah. waxa kamid ah batroolka, waxa kamid ah thinnerka maadada la yiraahdo ee lagu talagalay in lagu khafiifiyo rinjiyada marka baabuurta ama guriga la marinayo. maadooyinkaas oo dhan inhalants baa la isku yiraahdaa. waxa ku soo xiga oo lambarka 6 ku jira 10 walxood maadooyinka la isku yiraahdo opioidska. opioidskuna laguma baraarugsane ee asalkoodu horta waa dawooyin oo opioid analgesics baa la yiraahdaa. mararka qaar dhakhaatiir ahaan waan isticmaalaa dawooyinka laakiin xaalado kooban baa la ogol yahay in la isticmaalo. laakiin se baraha bulshada iyo meelaha saxaafadda markan yara eegay waxaan arkay in maadooyinkaas aad iyo aad loo isticmaalo. inta badan dawadaas mid kamid ah farmasiyadeena si caadi ah loogu iibiyaa. dawooyinkaas waxa kamid ah dawooyinka xanuunka lagu biiyo waxa la yiraahdaa xanuun baabiyayaal. marka waxa jira hal kaniin oo la yiraahdo tramadol ina maqasheen baa laga yaabaa. tramadol waa opioid analgesic waana maadooyin la qabatimo. marar fara badan oo aan tira lahayn dhakhtarada wax noogu yimaada dad waaweyn ama dhalinyaro inta markii hore loo siiyay xanuun baabiye ahaan markii dambe qabatimay oo si alla si ay isaga joojiyaan garan la. marka lambarka dawooyinka kale waxa kamid ah kuwan diazepam talaada lagu seexdo laakiin se inta badan opioids kuwa xanuun baabiyeyaasha iyo bethadine iyo morphine dawooyin la yiraahdo iyaguna kamid ah oo la ogol yahay in xaaladaha qofka marka xanuun baabiyeyaasha kale oo dhan waxba ka tiri waayeen. tusaale qof xanuun aad u halis badan sida kansarka oo kale ama terminal illnesses kuwa la isku yiraahdo la rajeynayo qofku inaanu ka kicin marka xanuunku istaagi waayo oo qura la isticmaalo. maadooyinka lamarka 6 bagin opioid baa la isku yiraahdo laakiin maadada farmasiyadeena ee dhalinyaradu aad u isticmaalaan waliba iskuulada iyo dhalinyarada suuqa joogta ee meelo badan aan ka arkay iyadoo la hadalhayo maadada la yiraahdo tramadolka ugu badan. lambarka 7 dawooyin kale ku jira. dawooyinkaasi iyo kuwa sedatives kala yiraahdo har iyo jeer dadka lagu seexiyo lorazepam, clonazepam iyo waxyaabo kale dawooyin fara badan baa kamid ah. kuwaasna waa maadada lambarka 7 ku jirta. maadada numberka 8 ku jirta waxa weeyaan stimulants qaar la isku yiraahdo. stimulantska number 1 inaga dhibti inagu hayay markii hore la yaabanayn waxa kowka chatka. stimulantska chat marka hore aan uga hadlay maadadii iyo waxa uu yahay sidoo uu saameeyo waxa la yiraahdaa maadada uu ka kooban yahay amphetamines like drugs baa la yiraahdaa. waana stimulants wala kuwa maskaxda bini'aadanka kiciyo kamid yahay. marka isaga oo ugu madalay laakiin tiradu ma doonaya dul marno. numberka 9 waxa ku jira tubaakada. waa tubaakada naqana waa sigaarka. tubaakada qaar waa la nuuga qaar shiishada iyo waxyaabo la midka ayaa lagu isticmaalaa. qaar kalena afka la geliya. naga dadkeen waxay yaqaanaan buuriga afka la geliyo waa tubaakada. numberka 10 waxa la yiraahdaa unspecified substances kuwa aan la cayimin oo kuwaasi way ku kala duwan dunidu. wadamo fara badan ba qaar baa ka jira wadamo kalena qaar kale laga isticmaalaa. 10kaasi labada buug waxay ka sameeyeen 10 xanuun oo khatar ah oo qofkii qabatima ama lagu arkay inuu isticmaalayo 10 calaamadood koob iyo 10 calaamadood inuu sheegi doonaba mid kasta loo shardiyaa laga eega oo ay ka sameeyeen 10ka walxood aan sheegnay. intaan calaamadaha u tagin maxay tahay sababta ay dadku u qabatimaan? maxay tahay sababta dadku ula qabsadaan walxaan taynu u jeednaana ay dhexdo kaga jirtaa waa xashiishada ama marijuana ama cannabiska magaceeda dhabka chemical name-keeda la yiraahdo. sababta loo qabatimo ama dadku qabatimaan maxay tahay?
bini aadanka ilaahay markuu abuuray si cajiiba oo markuu qofku u fiirsado cibro ama wax ku qaadasho ugu filan buu bini aadanku u samaysan yahay caqliga garaadka maskaxda habdhisyada kala duwan ee jirkeenu ka samaysan yahay si cajiiba oo qofkii in yar u fiirsada ugu filan cibro qaadasho u samaysan yahay marka maskaxdeena ilaahay wuxuu dhex dhigay qayb la yiraahdo brain reward system brain reward systemku muxuu yahay waa qayb maskaxdeena ka mid ah oo marka uu qofka bini aadankaahi wax wanaagsan sameeyana farxad gelisa oo qofka u keentay inuu farxo marka qofka bini aadanka wax murug geliya ama warwar geliya ee dhacaana u keeni karto qofku inuu ka murugoodo ka warwaro ka qoomamoodo dhibta soo gaadhay haddaba maxay sameeyaan walxahan aan sheegnay oo ay ugu daran tahay maadada xashiishada aynu caawa ka hadlanaa waxa ay si aan sax ahayn ama qalada ay ugu sameeyaan abnormal activation of the brain reward system waxay carinayaan ama ay kicinayaan ama ay dhaqdhaqaajinayaan systemkii maskaxdeena ku yaalay ee ahaa qofku inuu markuu wax wanaagsan sameeyo markaad maanta shaqo wanaagsan qabatid markaad cibaado fiican la timaadid markaad wax inaad dareentid deganaansho inaad maaragtay wax wanaagsan markaad maanta sadaqa la baxdo wax fiican qabatay shaqo fiican soo qabatay qofku wuxuu dareemayaa deganaansho nafsiyana iyo qalbiga uu ka dareemayo haddaba maadadani waxay keenayaan in qofkii ay u sheegaan ama ay jidhkiisa ka dhaadhiciyaan deganaansho ama farxad aan run ahayn qofkii maxay taasi ku sababaysaa wuxuu iska dareemayaa markuu maadadii isticmaalo inuu iska degan yahayo iska faraxsan yahayo waliba maadadan in caawa ka hadlana ee cannabiska ama xashiishadu waa ta ugu muddada dheer baa la yidhaahdaa ee qofka u sheegta waxyaabaha khayaalka ah ee aan waaqac ahayn ee qofku moodayo inuu nolol fiican ku jiro xataa isagoo dayacay waxaa laga yaabaa qofku inuu dayaco basic life-ki macnaa basic life waxaan uga jeedaa wixii ugu yaraayo noloshiisa tusaale ahaan xashada waxa ugu badan isticmaala waa dhalinyarada waxaa laga yaabaa ninkii dhalinyarada ahaa subaxiibuu gurigoodii ka soo toosay waalidkiisii dareyskii bay u xidheen lacagtii iskuulka laga bixiyey musasaacihiisii baa la siiyey waalidkii waxay u malaynayaan ilmahoodii inuu waxbarashadii ku maqan yahay ama iskuulkii uu ku maqan yahay ilmihii ama ninkii yartahaa wuxuu isticmaalay xashiishadii maskaxdiisa markuu xashiishadii isticmaalay waxay u sheegaysaa deganaansho aan sax ahayn waxay ka luminaysaa warwarkii mustaqbalkiisa sababtii loo soo diray gurigooda uga soo kalahay saaka ee ahayd inuu iskuulkii tago oo soo dhigto oo gurigii kusoo noqdo oo waxbarashadiisii diyaariyo waxay ilowsiinaysaa xataa oon wax muruga ama warwara aanay ku haynin waxalla wixii basic life-ka ahaa ama dantii ama ujeedadii uu qofkan iskuulka u tegay xataa wuxuu ku faraxsanaanayaa inuu iskuulkii isagoon tegin isagoo oo wax dantiisa aan qabsanin ayuu haddana iska faraxsan yahay oo uu iska mashquulsan yahay marka brain reward systemka dhammaan waliba maadada ugu daran ka hadlana xashiishada waxay samaysaa inay qofkii siiso un kalsooni beena kalsooni aan run ahayn marka waxa laga yaabaa inuu tago iskuulkii duurkiina iska soo yimaado maanta oo dhan aanu kalaaska xaadirin meel laba uusan tegin oo uu soo isticmaalay xashiishadii ama dooxa tegay ama meelaha intuu tagay uu ku isticmaalay mar alla markii uu guriga kusoo noqday halkuu ka warwari lahaa uu ka cabsan lahaa inuu lumiyey mustaqbalkiisii ama iskuulkiisiina aanay haba yaraatee wax damqasho aanay u samaynin ama aanay wax maxaa la yidhaahdaa ka warwara aanay u samaynin haddaba waxaan doonaya inaynu yaro eegno calaamadaha lagu garto qofku inuu qabatimay walxahan gaar ahaan taynu u jeedno waxa weeyaan 10 walxoodii waxay wadaagaan qaacido guud laakiin taynu u dan leenahay maanta aynu caawa aad uga hadlanay xashiishada calaamadaha lagu garto waa 11 calaamadood oo muhiima 11 calaamadood 3 group bay si kala qaybsan yihiin groupka ugu horeeya waxa la yiraahdaa impaired control waxaana ku jira 4 calaamadood impaired control waxa looga jeedaa qofku waxa uu ka lumaya amaba guud ahaan ka baxaya inuu qofku naftiisa xakameyn karo
caqligeenna iyo maskaxdeenna ilaahay wuxuu inoo siiyey inaynu ku kaantaroollo wixii wanaagsanna aynu ku qabanno wixii xun aynu nafta kaga soo xakamayno aynu ku kaantaroollo marka qofku marka walhaan isticmaalo waxa dhaca wax weeyaan inuu qofku lumo xakamayntii naftiisa qofkiisu ma joojin karo wuxuu rabaa inuu kaantaroolo wuxuu rabaa inuu isjoojiyo wuxuu rabaa inuu isxakameeyo laakiin haba yaraatee qofkiisu ma joojin karo gruubkaas ta koobaad waxa weeyaan qofku wuxuu isticmaalayaa xashiishadii marka hore wuxuu isiri yara tijaabi in yar isku day buu maanta bal in yar maanta aan yareego uu bilaabay dadna yar buu sameeyay intii yaradu ka isticmaal lahaa way la sii socotay maalinta ka dambeysay la sii socotay maalinta wuxuu isticmaalayay in yar laakiin maalinta dambe wuxuu isticmaalayay in aad u badan marka ka ugu khatarta badan waxay intii uu ku talagalsanaa markii koobaad in ka badan buu isticmaalay calaamada labaad waxa weeyaan had iyo jeer qofkaasi wuxuu ku dadaalayaa in uu yareeyo qiyaastan uu isticmaalayo xilli maanta niyo xabad had iyo jeer xashishadu waxay u jirtaa imika waxyaabaha ugu khatarta badan leh cusbitaalka marka dadku igu yimaadaan ragga way kala caloolada giin ragga qaar baan ku dhahdaa iyaga warran baashan balse hadda isticmaashay iyo sidee loo helaa intaan wax gelinayaa waxa maalmaha kamid ah yimaana dhalinyara qurbaha laga soo celiyay inanka reerkiisu waxay degan yihiin Puntland boosaaso aabihii baa wada wuxuu rabaa ninkan si looga daweyn lahaa baashan isticmaalayo weligii Hargeysa ma arag weligii Soomaaliland ma arag Puntland buu dhashay Puntland buu joogay u tagay qurbuu tagay in badan buu joogay baash buu bartay u soo noqday ninkii baa maalintii dambe dhakhtarka lagu keenay habeennimadii magaalada soo hoydeen hotel bay degeen subaxina dhakhtarka ugu yimaan doonaan ninkii baan soo wareysanay nibal hashan sidaad u heshay marka waxa iiga la yaabka badnaa waxay ninkii markaan wareysanayay ee calaamadaha iyo dhibta iyo waxyaabahan weydiinay wuxuu raniyow xalay soo weliga Hargeysa xalay buu Hargeysa soo galay xalay qudheed waan soo isticmaalay wuli soo weliga Hargeysa ma aragtay maya sidaad u heshay te banaanku baan u baxayo indhahan iska naqaanaa wuli dadka bahasha isticmaala ninun baan helo markiiba wiigeeyo markiiba baan soo qaatay oo siday u eegtahay maxaa sidee loo isticmaalaa wuxuu yiri waxa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan laakiin sida ugu badan ee imaka ay u taalo magaalada ee loo isticmaalo waxayaan sigaarkeenan caadiga ah ee taqaanaan dukaamada hayaan ayaa waxa la sameeynaya waxa laga daadinayaa guriga dabeetana baasha lagu buuxinaya dabeetana si af la yaqaan iyo luqad la yaqaan baa la iskaga iibiyaa dabeetana inuu wuxuu yiri waan xaladan aan Hargeysa soo galan weliga arag baan isticmaalay marka waatan u qaadan waayo okay ninka ha la qabsado wadanka oo muddo ha joogo oo dadana soo ogaada meelaha baasha laga helo oo waxaan ka fikirayay wax fog laakiin muxuu sheegay in xalay magaalada soo galeen weligii aanu Hargeysa arag weligii aanu Soomaaliland xataa magaalada kamid cagta soo dhigan hadda ay ugu horeyso laakiin soo xalay soo isticmaalay marka dhibaatada ay baashu leedahay dadku qofkaasi maalintii ugu horeysay uu bilaabay waxa laga yaabay inuu isla maanta yarka isticmaal laakiin soo wataa isagoo dhakhtar loo wado oo la isleeyay ka daweeya aabihiisii gacanta hayay intuu ka siibto soo helaya isticmaalay marka waxaan u jeedaa qiyaastii marka hore waxa laga yaabaa in halka xabbo maalintii qofku isticmaali jiray hal xabbo xabada sigaarka mugeeda ku bacaysan inuu isticmaali jiray laakiin imaka 10 midh ama 20 maalintii marinayo calaamada labaad waxa qofkaasi niyadiisa markaad wareysato ama markuu ay jirka in yar ka baxdo wuxuu isku dayaa wax ka fikiraya inuu ma joojisaa waxa la persistent desire qofku inuu yareeyo ama uu joojiyo hase yeeshee qofkaasi ma joojin karo waa impaired control awoodii uu joojinayay ka xoog badan saxashadiyo way ka qaadaysaa marka mana joojin karo qofkaasi qodobka saddexaad ee naftiisa control ka lumay waxa kamid ah saddex xaaladood buu qofku waqtigiisa oo dhan ku lumaya xaaladda koobaad waxa qofku inuu daydayo baashi soo helo lacagta uu siisan lahaa soo qabto kadib lacagtii soo helaya uu soo iibsanaya xaaladda labaadna waxa inuu isticmaalayo xashiishadii cabayo uu iska faraxsan yahay uu mashquulsan yahay oo waxa la wixii danihiisa ahaana uu bilaabay xaaladda saddexaadna waxa tabcaankii iyo burburkii iyo dhibaatadii ay u geysatay xashiishadani sida uga soo laadnaan lahaa saddexda xaaladood waqtiga intiisa badan kaga lumaya xaaladda afraad نحوي واحد لا كريفين كا واه أفصومالي حكون قناصة همون قفكينو همومو استوتشين كروايو هدي ومقلا واحد مجي عيد ويك هدي ومقلا
ama uu arko wax raadkii uu ku isticmaali jiray uu yara eeg markuu arko sigaarkii markuu arko qof xabad sigaar meel ku cabay in markaba qalbigiisa ku soo dhacdo sana hamuuni qaato oo goor uu ka tegay wixii uu gacanta ku hayay iyo goor uu dhaqaaqay isagoo nagay inuu tago dabatana uu doonto baashi soo isticmaalo groupka labaad waxa weeye social environment waxa la yiraahdo nolosheenu saddex qaybood baa loo qaybiyaa inta badan waa occupation social iyo school saddexda nolosheena inta caadiga waa saddexdaas social waxa weeyaan xaaladda caadiga qofku markuu bulshada la dhaqankiisa waxa la yiraahdo bulshada iyo qaabka uu qofku ula tacaamulayo iyo shaqooyinka waajibka ku ah inuu bulshadiisa u qabto tusaale ahaan nimankan dhalinyarada ee halkan nagu marti qaaday caawa maaxda aqoonta bulshadooda doorkii kaga aadanaa ee saxda ah bay garanayaan oo kuwa keenay inay waxa dalkan iyo ummadan u danta ay isugu keenaan oo dadkeeni ka wacyigelin u sheegno marka social environment marka in bulsho qofku inuu bulsho ahaan meesha uga baxo tusaale ahaan qofku wuxuu ku guuldareysanayaa waxyaabihii muhiimka ahaa qofku inuu bulshadii kan wixii u muhiimka u qaban lahaa u qabto ku guuldareysanayaa waa social environment waxa kale ku guuldareysanayaa occupationka ama shaqooyinkiisa caadiga ahaa qof kasta oo xeerkii shaqada gaaray ama shaqeeya xilli go'an baa laga rabaa inuu shaqeeyo ama qofku meheradiisa ka soo shaqeysto ama shaqaale ha noqdo laakiin waa inuu qofku soo shaqeeyayo oo shaqo tagaayo noloshiisa iyo haddii uu dee qof mas'uula ama waalid yahayna ubadkiisa iyo gurigiisa waa inuu ku warwaraa taasna qofku ilaabaya bulshada doorkii kaga aadanaan uu ilaabaya xashiishaduna ta ugu daran dhalinyaradu isticmaasho weeyaane school performance-kii waxa la wixii school la oran jiray iyo waxbarasho la oran jiray iyo qofku kaga haraya saddexdiiba qofku marka uu ilaabaya qodobka labaad waxa weeyaan qofka qoyskiisii ilmihii iyo waalidkii ayaa habeen iyo maalin is haysta waalidku ilmuhu hortaagay iskuulkii mee waxbarashadii meeday ixtiraamkii waalidku mee waxa la waxaas wiilaabay qofku markuu isticmaalo walaxdan xashiishada dhammaantood waxa qofku ka baxaya marka socialkii interpersonal wax la yiraahdo la socdo qofka familygiisii hadduu qof weyn yahay oo xaas ama uu leeyahayna laga yaabaa ninkaas hadduu isticmaalo xashiishadii qoyskiisii iyo caruurtiisii iyo gabadhiisii muhiimadii ay u lahaayeen buu ilaabo oo ay meesha uga baxdaba haba yaraatay xasuusan waayo qodobka saddexaad ee ku jira wax weeyaan wax la yiraahdo in uu qofku joojiyo waxyaabihii u muhiimka ah noloshiisa tusaale ahaan qofkan wuxuu ka mid ahaa urur bulsho ururkeenan oo kale wuxuu ka mid ahaa urur team player oo ama bulshada wuxuu qabtaa wuxuu ka mid ahaa kooxaha wacyigelinta ama kubadda ciyaara ama wixii la mid ah wuxuu ka mid ahaa qof dadkan ama team dadkan danahooda wax badan ka qabta wax alla wixii uu qofku qaban jiray uu joojinaya saddexdaasna waxa la yiraahdaa waa social environment wuxuu qofku dhammaan joojinayaa wax alla wixii uu bulshada u qaban lahaa ama naftiisa u qaban lahaa groupka saddexaad waxa weeyaan iyadoo xaalad khatar jirto inuu qofku isticmaalo labaana ugu badan tusaale ahaan qofku wuxuu isticmaalay xashiishadii dabadna wuxuu isku dayay inuu gaari ka haysto isagoo xashiishadaysan oo maskaxdiisii aanay joogin ayuu kaxeeyey gaarigii naftiisii iyo nafihii kale labadaba khatar buu geliyey ama dad gaarigii ha jiirsiiyo ama isagoo gaarigii ha la qalibmo ama gaari kale ha ku dhufto inta badan waxaa la yidhahdaa shilalka dunida dhaca shilalka inta badan waxaa keena qofka shilka sababa in qof xashiishadaysan ama daroogaysan isku wada daro darooyinka aynu sheegnay mid ka mida qofku markuu isticmaalsan yahay ayuunbuu shil geli karaa marar yar oo kooban ayay dhici karaan qof normal ah inuu shil galo kalabaadna waxa weeye qofkii waxaa lagu yidhi walaxdan aad isticmaalaysaa xashiishadu caafimaadkaaga halis bay ku tahay waanu og yahay waana loo sheegay dhakhtarkii wuu sheegay waana loo cadeeyey waxa lagu yidhi xaaladaada caafimaad khatar bay ku jirtaa haddii aanad iska daynin inaad xashiishadan ama maandooriyaan isticmaasho haddana isagoo og oo boqolkiiba boqol huba
ayuu isticmaalaya xashiishadii labada xaaladood waa risk of use baa la yidhahdaa labada xaaladood ee ugu dambeeya waxa weeyaan laba xaaladood la xidhiidha maadadan xashiishada lafteeda waxay ka samaysan tahay waxaa la yidhahdaa tolerance oo ah inuu qofkii jirhkiisu u adkaysto ama barto xashiishadii taasina waa ta keenta inuu qofku sii kordhiyo qiyaastii tusaale ahaan qofku maalinta hore uu isticmaali jiray one chip ama hal xabo oo midhka sigaarkaa leeg ayuu isticmaali jiray markuu muddo isticmaalayna waxay keentay inay midhkii waxbaba tiri weydayba taasina maxay keentay inuu 5 midh 6 midh 7 midh 10 midh saa usii kordhiyo marka tolerance baa la yidhaha inuu u dul qaato jirhkii oo qofkii barto jirhkiisii ayay keentaa ta ugu dambeysana waxaa la yidhaha withdrawalkana waxa weeyaan macnaheedu in mar kastoo qofku isku dayo inuu joojiyo ay maadadii isku dayda inay jirhka ka baxdo marka heerkii cufnaanta ama heerkii ribka ee dhiigga qofka ama dheecaanada qofka ay xashiishadu ka maraysay marka ay isku dayda inay hoos u daadegto ama ay yaraato qofkii waxaa qabanaya xanuun aad u daran xanuun khatar u dareemayaa jir xanuun buu dareemayaa warwar buu dareemayaa calaamadaha ugu daran xashiishada lagu gartana waxaa ka mid ah in qofku marka uu joojiis yiraahdo inuu qofku dareemo hurdadii qofku seexan waayo haba yaraatay hurdo kusoo dhici weydo inuu walwal fara badan uu qofku dareemo in qofku cuntaba cuni kari waayo marka qofku cuntadii appetite-ku istaaga waan sheegi doonaaye waxa la yiraahdaa xashiishadu waa shayga ugu muhiimsan ee appetite-ka kordhiya waxa la isticmaalo walxa marka la isku daro qofka hadduu yar ka isticmaalo gaaja qabana sawir gulay markiiba marka gaaja qabato qofku isku dayo inuu cunto badan isticmaalo hase yeeshee mar kastoo qofku isku dayo inuu yareeyo ama uu joojiyo waa heerkii jirhkiisa ay kaga jirtay xashadu ay hoos u dhacdo qofkii waxaa qabanaysa cuntada inuu joojin kari waayo macnaa isku dayi kari waayo deetana waxaa sinad gaajo ugu dhimanin waana baashi dib u isticmaasha taasina waxay mar kasta isku self medication isku daweeyo wadaado wallahi haddaan joojiyo maba noolaan kare waana baashi dib ugu laabto intaas calaamadaha 11ka waxaan ku dhaafaynaa calaamadaha khatarta ah ee lagu garto waxaan in yar dul istaagayaa maadooyinka waynaga nidhi waxa loo qaybiyey laba qaar waxaa la yidhaha illicit lama ogola in meel laba laga ganacsado ama meel lagu iibiyo qaarna waxaa la yidhahdaa waa non illicit oo waa la ogoliyay in la iibiyo sida khamrigii iyo sigaarkii oo kale adduunyada oo dhan marka la isku wada daro wadamada gaalada iyo islaamka marka la isku raaciyay bay yidhaahdeen dawo draaga ama substance-ka ama walxaha la qabatimo ta ugu badan illicit-ka ee aan la ogolayn in la isticmaalo ee wadamada oo dhan mamnuuca ka ah ee haddana la isticmaalo number 1 xashiishada ku jirta kaalinta koobaad bay ka gashay wadankeena kama marna waan idin sheegayeen in ka soo galay weligiin arag caawa soo galay inuu caawana helay taas waxay noo sheegaysaa heerka khatarta ee adduunyada kale inuu kala simanahayo baashay inaan ogeyn meel walba ay taalo meel kastana laga helayo maxay keentaa halista ugu badan ee haddaba ay keento maxay tahay maskaxdeena ku noqonaya mar kale waayo waynagii nidhi dhammaan walxaha la qabatimaa qayb maskaxdeena ka mid ah ayay cariyaan oo qaybtii ahayd maxay inay qofka u sheegto xaaladda degenaanshahana markuu wax fiican qabtan uu qofku wixii fiicnaa hayo ku farxo marka wax mushkiladii soo wajahaana uu maaragtay qofkii uu ka murugoodo kadibna uu isku dayo inuu si waaqica oo nolosha ku salaysan uu dhibaatadaas soo wajahday u xalliyo haddaba maskaxdeena qaybtaasi aynu sheegnay markii hore sheegnay waxay qaybta farxadda ama murugada qaabilsan qayb kale maskaxdeena ka mid ah ayaa waxa la yiraahdaa waxay qaabilsan tahay motivationka waxa weeyaan qofkii in uu sameeyo maxaa la yiraahdaa firfircooni dhiiranaan inuu qofku isagu iswado oo waxa qofku dantiisa uu garanayo inuu qofku dantiisa ku dhaqaaqo ay la yiraahdo qofkaasi motivated weey qofkaasi ama waa qof raba inuu wax sameeyo ama uu wax qabto marka maxay keenaysaa motivational syndrome baa loo bixiyey qofka inay ka baxdo maskaxdiisa marka cognitionka u dhaawacmo inay qofka maskaxdiisa ka baxdo wixii la oran jiray isdirida qofka inuu isdiro oo isdhaqaajiyo oo waxa dantiisaana qabsado wixii kale khatarna uu ka baydho taas waxay keenaysaa qofku inuu saddexdii qaybood noloshaba uu ku guul dareysto waliba da'yarta marka xashada isticmaalaan motivational syndrome markay keento school performance school problems ardaygii oo maalin walba iskuulka laga soo cayrinayo
macalinkiisii habeeniya maalin ay maaragtay markaasoo iskuulkiisa ratag ay maaragtay is haystaan bulshadii iyo gurigiisii iyo shaqadii qofka hadduu shaqaynayay saddexdii xaaladoodba qofki in uu maaragtay ku guul daraysto ayay keenaysaa waxyaabaha kale ee khatarta ah ee ay xashiishadu leedahay waxaa la yidhaahdaa marka laga reebo qofka motivationka inay ka lumiso ama qofka isdiristii inay ka lumiso waxaa la yidhahdaa waa la yidhahdaa waxa la gateway to all other substance bay yidhahdeen waa furaha koobaad xashiishadu furaha koobaad ee dhammaan waxyaabahan la isticmaalay aynu 10 aynu soo sheegnay iyo kuwa kale wadamada sida gaargaarka looga helo furaha koobaad maanta markuu xashiishada tijaabiyo inankii ama inantii ama qofku doonaha noqday maanta markuu xashiishada tijaabiyo berri toolan wuxuu tijaabinaya mid kale bal maantana khamrigan ku yara waayo waxay luminaysaa controlkii ama waxay luminaysaa ilaalintii saxda ahayd dadna waxay keenaysaa in uu tijaabiyo maanta markuu kow tijaabiyo xashiishada laba berri toolan mid kale ku xiga sigaarkii baa ku xiga chaadkii baa ku xiga khamrigii baa ku xiga kuwii la nuugaya xabagtii iyo wixii la midka baa ku xiga maalinta uu xashiishada tijaabiyo waa furaha koobaad weeye furihii koobaad ee ah inuu qofkii isticmaalayo qaar kaloo sii fara badan taasina waxa weeyaan khatar aad iyo aad u badan runtii oo markuu qofkii maanta tijaabiyo xashiishadii inuu kuwii kalena kusii daba qabanayo markuu sii kordhiyo oo qofkii uu muddo badan sii isticmaalo xashiishada maxay keentaa ilaa 6 xanuun oo khatar ah oo dhammaantood dhimirka ama maskaxda saameeya ayay keentaa waxaana la yidhaahdaa xashiishadu waa maadada ugu muddada dheerna jirka ku hadho maadooyinka kale waxaa laga yaabaa inay muddo kooban jirka ay kaga baxdo laakiinse xashiishadu jirka waxaa laga yaabaa qofkii inuu sanad 3 sano ama 4 sano kadib oo kale in saameynteeda ay kusoo baxdo qofka isagoo hataa 3 sano ka hor joojiyo isticmaalkeeda ay laba saameyntii ay ka tagtay inay soo baxdo oo dabeetana qofka uu maaragtay u yeesho xanuunadan kow maxaa ugu horeeya anxiety general anxiety disorder wax la yidhaahdo qofku waxay u keentaa cabsi warwar niyad jab qulub ayay u keentaa markuu qofku muddo isticmaalayo waayo waxay dhaawacdaa qayb maskaxda ka mid ah cognitionkeena qaabilsan cognition waxa weeyaan waxaan u jeedaa Soomaali markaan ku macnayno wuxuu noqonayaa garaadkii saxda ahaa iyo fikirkii saxda ahaa ayuu saameynaya taasina waxay keentaa in fariin qaadayaasha maskaxdeena waxa ku dhex jira waxayna isheenu qaban karno cajiib ilaahay dhex dhigay oo la yiraahdo neurotransmitters kuwa ugu commonsan waxa la yiraahdaa dopamine iyo serotonin iyo norepinephrine kuwa qaar aad bay u badan yihiin tiradooda laakiin kuwa ugu commonsan ee ay xashiishada iyo walxa kala saameeyaan waa kuwaas marka maxay keenayaan inay khalkhaliso shaqadii saxda ahayd fariin qaadayaasha ee maskaxda ka hayeen markay shaqadii saxda ahayd khalkhasho qofka waxa ku dhacaya anxiety-gan sheegnay waxa ku dhacaya wax la dysthymia waxa la yiraahdo qulub muddo dheeraaday ah qofku inuu qulub iyo warwar iyo walaac ku taagnaado had iyo jeer waxa kale oo keenaysa wax la yiraahdo delusion shaki warwar oo qofku is leeyahay cid baa wax ka sheegaysa cid baa ku daba socota cid baa ku mu'aamarad ku dhigaysa hebel baa waxa ay ku sameynaya cidaas rabtay waxa la igu sameeyo in warwarkii shaki qofku ka bahari waayaba taasina waxa weeyaan xanuunka ugu khatarta badan leeyahay keento marka la sii isticmaalo waxa kale oo kamid ah xanuunada khatarta ay keeni karto xanuun la yiraahdo schizophrenia waxa weeyaan xanuunada dhimirka ku dhacay la daweeyo ka ugu halista badan leh waa ka xanuunka kaliya ee dunida la isku raacsan yahay in aan dawo marnaba loo haynin dawo saxa looma hayo dawo kaantaroosha qofku inta uu cunayo calaamado ay deganaadaan oo kaliya loo haya laakiin si dawo qofka inta la siiyo la oran qofka bal muddada marka qaato wad kala danaysa haba yaraatee ma jirto marka xashiishadu waxyaabaha qofka ay gayeysiiso ama ay dhaxalsiiso ama ay kaga tagto waxa kamid ah in qofka schizophrenia 3 sano ama 2 sano kadib oo maartay ku dhacdo ama uu maartay qofkii xanuunkaas lagu arko xanuunada kale khatarta waxa kamid ah xaalada qofka inuu yeesho bipolar disorder waxa weeyaan xaalad aan deganaanshahayn qofkii inuu marna chiefka ka kici waayo inankii la arko bil inuu chiefo iskuulkii tagi waayo gurigii ka soo bixi waayo cid la hadli waayo oo chiefon bil ama labana la arko inuu raado ma fadhiisanayaba socod orod wada energy hal daqiiqo soo joogsa xataa laga waayo xataa soo yara seexan yaro daqiiqada xaaladana bipolar baa la yiraahdaa marka dhammaan xaaladahaasi waa raadka khatarta ee ay ka tagto xashiishada marka qofkii badan isticmaalo waxaan ku soo gabagabeynayaa 2 calaamadood waqtiga dartii aad baan idinku dheereeyay raalihaada 2 jeer ay calaamado badan soo baxaan marka qofku xashiishada isticmaalo waxaan qofku markuu isku badiyo
aad u isticmaalo inta badan dhakhtarada dadka waxa la keenaa markuu aad u isticmaalaan ama markuu joojiyo inta dadkan la kulano inta badan marka dhakhtarkana lagu keenay waxa weeyaan ama qiyaastii saxda ahayd in macnaha sax ma jirto laakiin qiyaastii jirku qaadi karayay in ka badan buu qofka isticmaalay dadna calaamadahan baa lagu arkaa qofku labada indhood ka badhiigay noqonayaan conjunctival injection baa afka qalaad lagu yiraahdaa afar calaamadood ma qofka inta badan ka eegna qofku hadii markuu size soo fariisto qofka bukaankan ama inanka dhalinyarada waalidkiisa uga harayaan oo la sido oo lala ordayo lee nafti baa ka baxayso saam ka eegno calaamada kooda waxaan indhihiisu ma fiirina labada indhood oo ka badhiiga oo ekaaday casaan conjunctival injection baa la yiraahdaa calaamada labaad waxa weeyaan dry mouth qofka dibniisaas wuxuu noqonayaa like marmarkan oo kale adayg hataa dad saa u mariso ciridkiisa ama dibintiisa xaggiisa oo qofka tijaabiso haba yaraatay wax qoyana kaama soo raacayaan qalayl baa afka noqonaya calaamada kale qofka had iyo jeer ka waxa weeyaan in uu qofku yeesho tachycardia afka qaadar tachycardia garaaca wadnaha oo zaid u garaacay qofka normally waxa la yiraahdo wadnuhu 60 ilaa 90 inta u dhaxayso garaaca dadku isku mid maaha ugu yaraan 60 ugu badan 90 waxa laga yaabaa in 150 140 garaac wadno maray ku yimaado qofkaas markaan gaadho qofkaas inuu too much oo xashiishada isticmaalay ama in afarta calaamado markaa calaamada afraad waxa weeyaan increased appetite markuu xoog u isticmaalo waxaan aragnaa qofku xisiya waxaan cunaysiya xaq soo wax xisiya waan gaajoon waxa laga yaabaa inuu isagoo imika xusuusan wax xisiya hadana maartay every 10 minutes wax xisiya taas waa calaamad kale oo sheegaysa in maartay uu xoog u soo isticmaalay soo hadad qof dhalinyarada kamid ah ama asxaabta kamid oo indhiga ka badhiiga noqdeen afku qalayl noqday oo kolba cuntada ay siiyay ugu soo celiyada la hadad aragto waxaad garan kartaa in qofkaasi xashada aad u isticmaalay calaamada labaad ka dhakhtarka inta badan ku aragna waxa weeyaan marka uu qofku siraada jooji oo ama uu waayaba bayaan min uu waayaba tusaalahan ama lacagtii ku iibsanay hore u soo qaban waayay dadna wuxuu yeelanayaa intaan sheegnay ka soo horjeedkeeda horta ugu daran waa irritability qof aan cidnaba maqlahayn irritable hada tra magaca xanaaqaya oo aan joog hadii la yiraahdo hadii la fariisado intaba ay maartay xanaaqaya waxa kale uu yeelanaya qofkaasi nervousness aro xanaaq dadkii maartay uu hadiya jeer uu maxta gacanta qaadayo waxa kale uu yeelanaya inuu yiraahdo qofku waxba cuni maayo waxa fadii qofkii la keenay 5 cisho muu cuni waxba afka waxba muu saarin cuntadii dhan buu joojiyay ta ugu dambeysana waxay qofkii inuu noqdo depressed ama isagoo fooraro oo dhagdhacsan oo indhaha aan soo kala qaadahayn uu yimaado afarta calaamado waxay qofku markuu isku dayo inuu joojiyo muddo markuu isticmaalay xashiishadii wadbatana isku dayo inuu joojiyo amaba uu waayay lacagtii ku saybsanayo oo heli waayay calaamadaasna waa calaamada lagu garto intaasan ku soo afmeeraya caawa calaamadaha dhibaatada iyo siyaabaha kala duwan ee ay u saamayso xashiishada jirka bini'aadanka waxaan kaliya tan kaga tagay wax weeyaan xashiishada wax weeyaan inaga sheegnay waa wax dhaba oo inala nool bulshadeena ka buuxda dadku ma yaqaanaan meel walbana way taalaa si kastana way u soo gashaa sida la sheegayna hataa waxa la sheegay in guryo magaalada kamid ah deerarkooda iyo laga beeray maxaa la yiraahdaa meelaha gudaafadaha marka dhammaan haddaan nahay bulshada dhakhaatiir haddaan nahay dhalinyaradii haddaynu nahay culimadii ururadii bulshada dhammaanteen waxaynu waajibaa inaan u hawlgallo isu tagno gacmaha isu qabsanno si aynu u joojinno furaha sharka furaha dhammaan walxaha la isticmaalo ama mukhaadaraadka la isticmaalo iswada geynta oo xashiishada ah kow bay ka tahay inagii sheegnay waa furahooda marka dhammaantiin aad iyo aad baa mahadsantiin waqtigiina qaaliga intaasaan kusoo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma arag alayna astaqfirullah dib baan xasuusta waan arkay xagga Ethiopia ku arkay bacanjeerada qaar iska sigaarka u cabaya jawgiisu wada bedelayay laakiin eriga faniga ku jira waxay qof iska doonaya inuu cimrigiisaba iska faraxsanaado laana wuxuu iska mudayaa nolosha dhabta ee wararka kalaamu layli laa yamshi fi nahaar inaga marqaankaada inoogu barano qof markuu habeenkii maartay aad u marqaamo magaalada isaga iskale waxa daar dhalaalaysa isaga iskale xitaa buulasha ku qaylay hadda aragtoodu weydiiso wuxuu u haystaa inuu maansor ama pastor fadhiyo haddana subaxii hadduu meesha soo maro hadalkeeda daad dib ugu noqdeen hortaas waa maxay taas mar walba waa sababta qofka hadduu mar yara bilaabo isa suuxinta bilaabo nolosha inta ka dambaysa isku iloobayo
imka su'aalahan yara bilaabina markaan aan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha su'aal baan caqliga niyada ku yara darso markuu astaamihii tirinayay cudurrada addictive ama waxa la qabsado waxaan xasuustay Facebook in badan baa waqtigan uu dilaa qofkuna isku suuxiyo inay wax ka luminaan oogin marka niyada ku sii yarahay kolay waxoogaa inay ka mid tahay qaybaad aan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha in badan kolay shaqadan kusoo dhex jiray in badanna hawlo badan ka hor yimaadeen isagana xog badan isagana ka heli doonaa soo dhaw gudoomiyaha بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله إلهي بقى مهد له سكان كياني إنه كفكرنا إنه بلشدين إنه لبعتها كفيدنا دكتور كيو هي أوركان ما حدا بقى هذه أضمن مهدينا يا مهدي راي كدب هي إذن كي سوق قريب قلي دكتور كي بمشي كهلا مخدرات كهلا مركا مخدرات ككون نغن ما يناي عندنا هنا لبا قضبان صاير وري هذا الكيكة مدحويان ururkan metelayeen aan kamid ahay inaan xoogaa yar idinka sheego sida idinkuna dhinaciina uga qabataan hawsha qodobka labaadna waxa weeyaan maadaama dadkeenu imika dhalinyaradu badan tahay oo la yidhaaho boqolkiiba dhowr iyo 60-70 waa dhalinyaro waxaa looga jeedaa wixii 30 ka yar dhalinyaradu waxyaabaha u halistaa mukhadaraadka maandooriyaha marka inaynu wax yar ka tilmaano sida aynu uga hortegi lahayn dhalinyarada uga duwi lahayn halkan waxaan doonayaa wax yar ka idhaaho haddaan ururka usoo noqdo ururka waxaa la aasaasay 2014 runtiina fikradda dadku way ku wada jirtay laakiinse aniga oo ka soo noqday qurbaha ayaa qurbahana aan ku ogaa weliba geedka qaadka la yidhaaho inuu qurbaha burburiyey dadkii qurbaha tegey ayaan halkana markaan imi ayaa warwari weyn bay ugu hayay in doora waxaan soo noqday 2017 wadan ku soo noqday 7 ku soo noqday 2017 inta waxaan ka fikirayay waan arkayay oo waan daraasooyin eegayay dabeetana dadkii ka hadlayay baan anigu ururiyay sanadkii 14 dadkii damiirkoodu markii horeba kacsanaaye dadkaasoo ka kooban bulshada inteeda kala duwan oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir ay ka mid yihiin salaadiin saraakiil dowladda ciidama iyo kuwa shaqaale caadigaaba culummada dad waayeela ayaa bilaabay markaa in la istuso maalinta ugu dambeysana waxa kiciya weeyaan qolo reer Dhanmaagaba intay lacag yar soo direen bay war dadka reer miyiga la soo wacyi geliyo tawciyadan islaamiga ah ee maadaama miyigu diintu aanay aad u gaadhin diintan dee meel walba inaga inoo taalla dabeetana waa lagu baxay dabeetana waxaa la ogaaday wax miyi la yidhaahdo inaanay jirin raggii dhintay raggii miyiga joogay oo magaalada waxaa laga helaya dad mukhadaraadka isticmaala iyo dad aan isticmaalin mukhadaraadka markaan leeyahay anigu jaadka uu ku jiraa aniga number 1 buu jaadku yahay sababta weeyaan waa ka inoogu horeeyo inoogu badan inoogu saameynta badan weeyaan halkaas hadda fikraddaas la waran wuxuu qabanno maxaynu qaban karaa waxay gelin baynu qaban karaa awood ma lihin inaynu inagu dadka wuxuu diidnay inaynu dadka qancino ayuun baynu qaban karaa runtii dad badan way soo dhaweeyeen laakiin caqabado fara badan way jireen caqabada ugu weyn waxay ahayd in la yiraaho warbahalkan dawladii horeba oo ku xiiqeen
ingiriiska baa isku day inuu joojiyo uu joojin kari waayey dowladda siyaad barre ayaa gacankii askarta axmaqa ahayd baa isku dayday inay joojiso waaba burburiyey qolo waxay leedahay markaa waxba laga qaban kari ma weynay jabsan yihiin bahalka waxba lagama qaban karee iska daaya ha isku daalanine qolo kalena waxay leedahay oo labaad iyaguna war waddanka waxa lagu dhaqdhaqaaqayaa shaqada waddanka taalaba waa isaga waxa weeyaan intaasoo milyan oo ayaa cashuura laga qabtaa ciidamadan iyo waxaan arkaysaa in nabadgelyo ilaalinayaba isaga laga masruufaa waxaad moodaa inaan meel kale wax laga helin isagun baa baynu ku noolahay intaasoo qof baa ka shaqeeya maxaa waxa isaan beddelka dad waalan baa deena bahalka iska daaya horta waxa ugu weyn naga hor yimaada labadaas ay ahaayeen waxa kale saddexaad waxa weeyaan mas'uuliyiinta qaarkood dadka mas'uulka qaarkood oo ama sidaas oo kale u niyad jabsan oo labada fikrood qaba ama iyaguba isticmaala siba qolada warbaahinta gacanta ku haysa ma ogola bahalka in laga hadlo waxay leeyihiin dawladda arrimo dawladad gashay dad qaad ba soo qaado marka caqabada ugu weyn kaasi ahaayeen laakiin alxamdulillah xagga dadweynaha iyo dadka baax mushtarkaaba waxaana lagu bajin jiray war waxa kan dawladaha ka dambeeya dad lacag leh oo bahalkan ka lacagaystay baa ka dambeeya naftiina khatar ku jirta wallahi inta goor lagu naftaada khatar ku jirta inay tiran lahayn laakiin se alxamdulillah maalina buuslay ma odhanin maalina kelmad xun ciiday ma odhanin maantana dadkuba marka qofkii ugu ogaadayna waxaa dhex galayba wuu canaananaya wuxuu leeyahay warbaryaha idin maanaan aragay xaggee ka dhacdeen marka ururka horta hiigsi maxay ahayd himiladeedu waxay ahayd in aynu waxaan muqaadaraadka nooc kastaba haatee aynu ka dabargoyno waddanka ururka waxaa loo bixiyey ururka wacyigelinta iyo dabargoynta muqaadaraadka ururka waxaa looga jeedaa in cid waliba kusoo ururto dadka la isugu ururiyo wax alla wixii damiirkiisu nool yahayba in la ururiyo dhinac loo wada dhaqaaqo wacyigelintuna waxa weeyaan wasiilada la isticmaalayo ugu horeysa waa in dadka laga qanciyo labada dawladda hore ee isku dayay inay xukuumadda hore inay joojiyaan iyagan dadkii wacyigelin oo bahalkan dhibaatadiisa iyo wuxuu yahay oo dadkii wax wanaagsan wixii u haystaan ayuun bay yidhahdeen waanu joojinaynaa waxaa ka horeysa qofka inaad qanciso waxaa ogtihiin de khamriga oo diinteenna nas ku soo arooray maxaa la yidhaahaa goor dambe oo hijiradii sanadkii labaad iyo sanadkii saddexaad noomiyaan ayaa la joojiyay inta hore oo dhan waa wacyigelin baa soo socoto oo ayadu way soo kala dameeyeen ayadu soo kala dameeyeen marka foolxumadiisa iyo dhibaatadiisa wixii soo tilmaamayay markii ugu dambeysay baa dadkii ay isku dubadhaceen ayuun baa la yidhi hal antum muntaahuun war ma iska daynaysaan haa baa waa la daadiyey marka midda labaad dee wax dawlad adag oo ciidamadeena iyo waxeeda wada dhisan yihiin oo joojin karta ama laga boqo qaar baa nagu yidhi war bahalka nimankii halkan ee madaxa duubtay baa shabaab baa bahalka ka adago intaa waa idinku xaqiiqaysaan iyagu 3 kelmadood bay qoreen qaadku waa mamnuuc 3 kelmadood bay qoreen dee qoladaasoo kalena ma jirtay marka inagu waxa weeyaan wacyigelin inaynu isticmaalo dadka qancino marka hore inaynu dadka isku nahay dadkeena dhibaatadiisa inuu sheegno si aynu ugu sheegnaba wax walba la isticmaalay muxaadaraadka khudabka haddii la kuyihi boodho ku aragteen magaaladayna boodho ku aragteen haddii la kuyihi in stiikare la daadiyo in waraaqa maalmaha ciidday wadinka arka waraaqa la daadiyey dhakhaatiirtu inay hadlaan laba qolana ugu saameyn badan dhakhtarku waxaa way maqlayaaye laba qolo haddii mukhadaraadka doonaya dadka la wacigeliyo laba qolaa ugu saameyn badan qolo waxa weeyaan dhakhaatiirta oo waxay qofku marka dhakhtarku yidhaaho dhakhtarka waynu ku kalsoonay badanaaba oo adigan marka xanuunsanaysa u tegaya kalsooni baad ugu tegaysaa hadduu dhakhtarku ku yidhaaho waxaanay dhibaato ku leeyahay oo intuu soo fadhiista TV-ga iyo meel walba soo fadhiista yidhaaho waxaasi dhibaatada noocaas u leeyahay la iska daayo dad badan oo caafimaadkooda dan kale ba iska daynaya dhinaca kale waxay dad muslim ah haddii xagga xukunka islaamka culimada waaweyn hadday ka hadlaan yiraahaan waxaasi ciladaha aawadood waa mamnuuc waa wax weeyaan waa xaraan dadkii wixii damiirkiisu
marka waxaas waa xaaraan qofkii damiirkiisu nool yahay wuu iska daynaya kuwa kalena waxa weeyaan dad soo arkay oo dee tusaale ka bixiya qof intuu bahalkii soo isticmaalay soo dhex baxay mukhadaraadkii qofkaana waa lagu qancaa marka waxa weeyaan wasiiladiina wacyigelintiina wasiilo ka dhigno meeshaynu u soconaana waa dabargoynta waxay ka joogtaa meeshaynu u soconno waddankeenu haddaynan ka dabargoynin marka waddankeenu siduu saa maqlayseen taliyaha booliska hadalka ugu dambeeya hadlaya wuxuu yidhi waar arrintani ma aha baac mushtari waa duulaan buu yidhi waa wax qorshaysan oo laynoogu talagalay buu yidhi marka inaynu soo jeesano wixii iska dabargoyno inaguna aynu ka hortagno ayaa loo baahayay intaasaan soo wadnay waxaan doonaynay in talabaynka la qaadayo waxa weeyaan wacyigelin horta wixii in lagu bilaabo laba cilmi baadhis rag dhalinyaro baa tiino jaamacada badankanu dhigto way adag tahay way yar tahay dadka cilmi baadhis wanaagsan ka sameeyey way jiraan dad buugaag ka qorqoray oo dhibaatooyinka dad ka warwaraystay oo xoogaa ka qorqoray ama wuxuu ka kooban yahay ka yar qorqoray laakiinse wix daraasad wanaagsan dhakhaatiirtuna kamay samaynin dhalinyarada maxweyn meelaha jaamacadaha iyo dhakhaatiirta waaweyn isbitaalada waaweyn baa daraasaadku ka soo baxaan haddana anigu wax iska xarxariiqo dee kalsooni badan lagu yeelan maayo marka waxa weeyaan cilmi baadhis in la sameeyo oo wixii loo soo bandhigo dhibaatadu dadku leeyahay marka dhakhtarku soo bandhigayo oo daraasaysan oo cilmi baadhis waxay wax ka taraysaa dadkii aqoonta lahaana way ka faa'iideysanayaan dadkii go'aanka lahaana way ku qancayaan dadkii go'aanka lahaa markii horeba shaki ku jiray oo ka baqaya bahalka haddii aan wax qanciyo loo soo bandhigin tallaabo qaadi maayaane marka taasina waxa weeyaan in cilmi baadhis la sameeyo marka labadaas la gaadho in haddaba xakamayn wax la yidhaaho in lagu bilaabo maadaama dadkii la qanciyey oo hogaaminkii dadkii waddanka hogaaminayay ama baarlamaan ha ahaadaan ama xukuumadda ha ahaadaan in marka la qanciyo daraasaad lagu qanciyo bulshadiina loo soo bandhigo dhibaatadu leeyahay in markaa la bilaabo iyadoon joojinta markiiba lagula boodaynin xakamayn maxaa ka mid a xakamaynta maxaa la samayn karaa horta intaan dhaafin wacyigelinta manaahiijka bahalka in manaahijta la geliyo in miidiyadu xoog uga hadasho dhibaatada markayna horta ugu weyna taalla waxa weeyaan miidiyadeena marka waxay noqotay baamushtar bay noqotay tii dawladduna way ka baqaysaa marka maanta haddii aad meel ka hadasho haddii aanad kharash ku darin oo aan kharashaan isticmaalin waxba lagu sii dayn maayo waxaad moodaa damiirkii inuu inaga dhintay ahaa tabaruca iyo inaad bulshadaada wax tarto wax u qabato dad yar baa laga yaabaa inay duubaan oo ay dabeetana miidiyada ka sii daayaan marka in manaahiijta oo iskuullada lagu soo bilaabo oo wixii ay wax wada socda noqdaan wacyigelin wada socota ay noqoto ilaa iyo jaamacadda oo ugu yaraan fasalkii qofka mar ama laba goor bahalka muqaadaraadka dhibaatadooda qofka looga sheekeeyo halkaa marka la maramayo in la xakameeyo maxaa ka mid ah tallaabooyin yaryar in la qaado waxaa ka mid ah in bal horta faris magaalaha adduunyada meel muqadaraad noocaas oo kale ah khamriga nin kastoo dee meel gaara lagu iibiyo xitaa khamriga gaaladu markay iibinaysa xitaa wuu kantaroolan yahay waxaa la odhanayaa qof intaa ka yar lagama iibin karo meel walba laguma iibin kare meel gaara oo laysan gaara labaa lagu iibinayaa haddii la koroon yahay waa kooban yihiin innaga saas u yaala mukhadaraadka daba iyo dacalba yaal saa loo dhigayaa qofka islaamka ee martida inoo soo galaa markuu arko madaharkeena guud dhalinyaradan garh kale haddii la koroon yahay hablahan asturan waxaa markuu arko farxaya qof kastoo islaam markuu waddankeena soo galo laakiinse markuu horu soo maray oo arko mukhadaraadka meel walba daadsan ayuu niyad jabaya marka waxyaabahan dee la qabsiga lena wuxuu u baahan yahay in dadka laga fogeeyo mardu wixii la qabsi yeesho waa in la kantaroolaado dadka laga fogeeya marka wixii in kantarool lagu sameeyo at least magaalada suuqa laga saaro haddii la koroon yahay in qiimaha lagu kordhiyo aan qof walba iibsan karin in la yidhaaho qof daada intaa ka yar lagama iibin karo waxaan ka hadlayaa dee kuwan aynu sidaan doctoorku sheegayay kuwan aynu xalaashanay dee khamriga oo kale iyo sigaarka oo kale marka in tallaabooyin caynkaasa la qaado
dabeetana step by step loo joojiyo oo marba qaanuun lagu soo saaro ilaa marka dambe la yidhaaho mukhadaraadku ka mid yahay oo imika waxaa la soo saaray sharci wanaagsan baa sanadkii hore la baaskareeyey oo mukhadaraadka tilmaamaya waxaa ku jira kelmaad aad iyo aad u fiican oo qaadka loo isticmaali karo waxaa leeyahay wax kasta oo maskaxda iyo jidhka qofka isticmaalaya wax yeelaya waa mukhadaraad waa maandooriye marka waxaa baahan inaynu caddayno weliba qolada caafimaadku in la caddeeyo qani inuu yahay maandooriye oo maskaxda wax yeelayo oo wadnaha wax yeelayo oo meel walba wax yeelayo haddaan intaa halkaa ku dhaafo mala idinkuna su-aalaha idin furi doonaayo waxaan doonayaa inaan in yar dhallinyarada sidee baynu dhallinyarada maadaama dhalinyaro badanay sidaynu dhallinyaradana uga ilaalin karnaa waxaynu uga ilaalin karnaa horta marka ugu horeysa kow qoysku ka bilaabmaya qoyska ayuu ka bilaabmayaa nabigeena waad ogeedeen calayhi salaatu salaam markuu qofku guursanayo diin baa lagu xidhay ninkana waxaa la yidhi idaa ataakum man tarduuna diinahu wa khuluquhu fasawijuuhu baa la yidhi waa ninkii maxaa looga jeedaa labadii baa la israaciyada weliba diintii iyo khuluq waayo labadaasi badanaa marmarka qaarkood way kala tagaan oo arkaysaa qof diin badan yaqaano oo khuluqiisu wanaagsanayn marka in khuluqu wuxuu ka mid yahay waxyaabo qoys ku dhismaayo iyo diintii gabadhiina waa tii afarta shardee faadfar badahdi diin baa la yidhi ta diinta la kaxaysaa la yidhi marka horta in marka hore dhismaheena qoyska in la saxo qoys wanaagsan la dhiso waayo muxuu keenaya qoysku wuxuu keenayaa ilmihii yaraa dhashay horta wax u baahan yahay ama inaan qudwi u baahan yahay tusaale u baahan yahay haddii hooyadii ama aabbihii tusaale xun noqdo oo isagii uu qaadkii iyo khamrigii iyo wixii isticmaalayo dee ilmihina maxaad u malaynaysaa maxay dhahaan reer miyigu geela hashiisi durdurisay duqdiisii aarankiisana maxaad mooday marka waxa weeyaan hadduu ninku tusaale xun yahay ilmihina wuu xumaanaya gabadhuna waa la mid waa idinka arko imaka badanaaba dumarku ma cuno hablo ma cunaan badanaba qaadka waa maxay sababtu dee dumarkaan cunin dumarkiina imika waa la soo galo way bilaabeen marka kow qofkii tusaale wanaagsan buu yahay laba guriga hadduu buuq ka dhasho oo guri buuq badan uu noqdo oo hadiyo goor lawadii waalis haystaan ama uu burburaba halkaa waxaa halis ku jirta ilmihina inuu fara ka baxo oo uu niyad jabo oo dabeetana xaggii mukhadaraadka u baydho marka qoysku inuu noqdo qoys wanaagsan oo qoys wanaagsan la dhiso laysuna dul qaato oo ilmaha la ilaaliyo oo xitaa marka la wada hadlaayo aan ilmaha hortiisa lagu wada hadal kaasi waa qodobka koowaad waa qoyskii qodobka labaad ilmihii markuu dhaqaajiyo dee bulshadii soo dhexgelaya bulshadii waa in horta dee waxbarasho wanaagsan helaayo islaamiyahoo wixii laga wacyigelin karo oo meesha martuu islaam yahay iskuulku uu manhaj islaamiya leeyahay ma aha inuu de quraan wada yahay laakiin waa inuu iskuulladeena imika waxa weeyaan iyo manhajkeena waa manhaj gaalaad waa la soo aragtay duruustii waa la soo yareeyey islaamiga ahaa iyo carabiga aad iyo aad baa loo soo koobay wixii kalaa fara badan yeelkeeda xitaa haddii la dhex gelin lahaayo mukhadaraadka manhajka lagu dari lahaa wax weyn bay ilmaha ka tari lahdo wacyigelin buu helayaa ilmihiina wacyigelin buu halkaa kasoo helaya laba ilmihii wuxuu u baahan yahay suxbo wanaagsan saaxiib wanaagsan buu u baahan yahay waa garanaysaa xadiiska nebiga jaliisu saalix wa jaliisu suu ya uu tusaale ku bixinayay nin cadar iibinaya iyo nin maxaa leeyahaa birta tuma ee dabka shidaaya ayuu ku bixiyey marka ilmihii wuxuu u baahan yahay haddii ilmaha aan suxbad wanaagsan u samaynin oo aanu saaxiib wanaagsan saaxiibka xun baa geynaya mukhadaraadka ilmihii hadduu saacad iska sii dayso weliba imika waxay bilaabeen meelaha taargetka waxa weeyaan meelaha lagu ciyaaraya carruurta idinka arkado inagu meelaha lagu ciyaaraba malihiin wata la wada cunay dantii guud marka wadooyinkana lagu ciyaaraya marka control ma leh haddaad ilmahaga iskaga sii dayso halkaa oo waxaa iskala ciyaaro beri isagoo cabayo baad arkaysaa waayo kii xumaa baa lasoo dhexgelinayaa mid baa isaga bilaash loo siinayaa maalin labaad baa la sii bixinayaa marka dambena waa laga iibinayaa marka ilmahaagu inuu saaxiib wanaagsan yeesho oo saaxiibka xun ka ilaaliso carruurta ama qaraabada tihiin waa in laga ilaaliyaa haddii kale mukhadaraadku gelaya qodobka afraad waxa weeye
qofkii inuu mashquul noqdo qofka hadduu faraaqo badan helo dee waxyaabo badan buu eegayaa meelo badan buu tegayaa marka inuu qofkii yaraa la mashquuliyo hadduu gelinkii hore iskuul tegey gelinkii dambe in ama guriga wax loogu dhigo laga mashquuliyo inuu dibadda u baxo ama milcaamad kale loo diro oo weliba inagu carruurta wan iska sii daynaawn haween haddaad milcaamad u dirtay ama aad tidhi brifat baad u dirtay brifat baa la yidhaahaa iminka suuqa carruurta loo soo diraa waa idinka arkay oo iskuulladiiba halkaa laga wada furtay ama xisaab haato ama computer science haato ama waxay doonto haatee ama luqadii haatee ilmihii yaraa ama inantii yaraa baska iska soo raacaysaa intaa ay sii socoto soo socdo ilmahaasi dee mujtamac badan oo kale jaajaadu la kulmaya waxaa laga yaabaa inuu dhexda laga helo ilmihii ishan lagu haya baa loo baahan yahay ilmihii ama in marka horeba gaari lagu qaado oo gaari markii dambe gaari lagu soo celiyo haddii kale qofkii waalidka haddaan kaa kari karaynin inuu ilmaha kantaroolo oo daba socdo waayo hadduu iskuulku waa iska kantaroolaya badanaaba iskuulladu iska kantaroolaya inkastoo kuwa dowladdu beri ay weli xun yihiin oo aad arkayso iyagoo sigaarka ku warcabaya carruurtii maalin dhexdaasaba waxaan tegay iskuulkan halkii la odhan jiray imika maxaa leeyahay magamca dheere maxaa leeyahay talo shacab boys 26 juun ayaan tegey waxaan doonaya ka wacyigelino dabeetana waqtiguna saacaan ku beegmay ninkii maamulaha warwareegayey markii la soo noqday halkaa niman baa macallimiin baa fadhida halkaa albaabka agtiisa meel isaa fadhida dabeetana anna halkaasaan soo fadhiista waxaan sugayay ninka maamulahoo dadka la hagaajinaya nin macallimiinta ka mid ah markii kalaasyadii lagu noqday ayuu xabad sigaar intuu sii shitay fasalkii galay xabad sigaar intuu sii shitay hadda maanta oo dhan meeshuu fadhiyey intiinu saxo oo dhan intuu xabad sigaara sii shitay waa nin weyn oo aniga iga daaweyn ayuu fasalkii galay dabeetana ninkii maamulaha baan sheekada uga sheekeeyey markaasuu yidhi labaanuu taaglaanay buu yidhi isaga iyo mid kale yaanuu taaglaana marka maxaad malaynaysaa haddii macallin meesha macallinkii uu waxaa samaynayo marka waxaa loo baahan yahay inaynu soo jeedno waxaan kaloo idiin sheegayaa waqtigan aynu iminka joogno runtii booliska iminka intuu ninkan dambe qabsaday taliyahan iminka cusubi booliska wuu soo jeestay bahashan awalba way soo geli jirtay nin baa mar wuxuu igu yidhi boolis ka mid ahoo nala shaqeeya wacyigelinta nala sameeya wuxuu igu yidhi haddaad aragto khamri lasoo qabtay waa la isku afgaran waayo khamrigu dawarna uu yaala khamrigu waxaana ugu halisan meelaha ka soo galayo dee xuduudda Itoobiya oo dhan bahalkan dee Itoobiya dee sideen biyo cabina loo cabaa sida maqaadka inagu isticmaalayna iyaga loo isticmaalaa markuu inagu soo dhawaadaanba marka hore way naga fogaayeen xuduuddeen may soo fadhiisan jireen iminka meel walba way soo fadhiisteen askartii oo soo fadhiisanaysa meel loo diidi karana ma jirto wixii xuduudkeena xagga ka xiga meel loo diidin karo laguma iibin karo ama lama dhigi karo ma jirtaa marka baalkii dhuuntu inaga soo galay waliba iminka intay dagaalka galeen waxaan isii warshadahoodii baa markii dagaal waxaad khamriga waxaad ugu khamri cabadna labadan qoomiyada istilaya maxaarada iyo Tigreega marka meesha markii dagaal ka jiro de suuq ma jiro marka suuq inagii baa noqon xagga lagu soo duway xashiishaduna de xoog bay soo socotaa meesha inay suuq noqoto baa la ogaaday marka waxaan leeyahay war booliska imika uu shaqaynayaa xaafadaha iyo magaalada hala baraarujiyo hala isbaraarujiyo haloo fiirsado calaamaadka imika waa noo sheegay doctorku markaad calaamaad ka aragto qofkii meeshu ka helayna waad ogaan karaysaa haddii ogaan meeshu waa meel urayso oo aan nadiifad ahayn oo meelaha wax lagu waxeeya waa meel waa dadka iyadoo lagu xoonsan yahay waxa loo baahan yahay booliska inuu la shaqeyno in booliska la shaqeyno imika hoggaan baa la sameeyay imika intuu joogay hoggaanka la dagaalanka mukhadaraadka ayaa la sameeyay numberna wuu jiraa haddii la ku roon yahay anaga waxaan kula talinay in saldhigyadana dad aan mukhadaraadka isticmaaleen anigu mukhadaraadka khamriga waxaan u aqaanaa qaadkaan u aqaanaa qofku hadduu qaadka isticmaalo wax waliba u fududaanayaan wasaa uu sheegaya mas-uuliyaddii saareed qofka ayaa hoos u dhacaysa damiirkiisiibaa hoos u dhacaya
xoogaa yar buu iska qaadanaya qof baahan buu noqonaya mar haddaad mukhadaraad isticmaasho baahidaadu 100% weeyaan goor walba waad baahan tahay marka wax walba waa lagu jiirsiinayaa wadinka arkado marka kantaroolada maraysaan gaariga qaadka sida miyaa la joojiyaa waa laga sii qaadaya nin reer xamar oo magaalada Nadu Baxmishtare baa yaa la kaftan wuxuu yiri berberaan uu iska soo bax gelaynado dadna waa la joojiyay dadkii qaadka sidee baa naga daba yimi oo waa laga qaaday war maxaa dhacay baan maxaan ninkan loo siday anaga saar loo gulay wuxuu yiri ha maskaxdii doorku sabaalku buu yiri maskaxdii buu sidaa bahalkani ya balki waa lagu fikiray wala sideynaya wala ku dheereeyay barakallahu fiikum adi aad buu mahadsantihiin te waxaynu u baahanahay dhamaantiin inuu askar wada noqono askar ma wada noqonaa nin waliba meel buu ku wanaagsan yahay nin asxaabtu ku wanaagsan yahay haddaad kubadda ciyaarto qolada kubadda inaad dhex gasho aad arintii aad ka wacyi geliso oo aad daba gasho weeyaan haddii aad waxbarashada ku wanaagsan tahay dhinaca waxbarashada iyo caruurta inaad wacyi gelisaa loo baahan yahay haddii aad qaari tahay oo masaajidka mas'uul ka tahay in had iyo goor aad hadal hayso bahalkii baa loo baahan yahay in meeshii lagu arkaba la soo qabtaa loo baahan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kole su'aalahan bilaabi doonaa idinkoo aan balyaro tijaabin doono qof xashiishada ka maledi arkay midkiina mu arag soo maa waay geedka ka baxda weli ma aragteen sawir baad ka haysaa soo maa weli laakiin geedka ma aragta maalin dhaweyd talisku waxay sameynayeen oo TV ka soo daayeen geed laga beeray meel gudaafada oo tintina qashina marka waxay daba galeen adoo de qoladii iibinaysay daba galeen adoo akhir raadka soo socday soo meel gudaafada inta ku beerteen ay barta ka soo goosan jireen marka wala daba galay taliyo marka wax soo saaray soo gudaafad ka goynay geed yaro caleen yaro de anu ma arag marka laakiin imka waa hadaan iga soo horbaxo waan garan karaya sidan wuxuu yara eegyahay ama YouTube hadda dib ugu noqotaan wada irki doontaan waa geed yaro caleen yar marka waxa laga yaabaa bal sawiro khidada ku jirta in gudaafad laga dhex beertay waa marka la soo wax kale la sheegay qolooyinkan Oromada meelaha beerbeera inay wax badan ku dhex tarsadeen dadkeenu ma yaqaanaan marka talaabada koowaad aan jecel waxa weeye in qofka soo idin kamidi waxaan doonay projector-ka inaan ku soo qaado qofka soo idin kamidi inuu balgeedka barto oo xumaan intuu joojin karayo barta kaga qayb qaato waa intuu fududiyaa aanu ina dhex galin anu maalintii ugu horreysay qof yani xasuusteen kulahaa markii dhaweyd maan arag qof baasha cabay maalin baan xasuustay maalintaana si kadisa igu timid nin ka mida asxaabtaydii oo wada soconay qoladan dhoof iyo wax kala qaadanaya ayaa qolay Sweden ka timid oo khadka ka iibinaysay baa soo waxaan ay cabayeen sigaar ban moodeen xashad bacabeen marka kan la socday baa balwad buu lahaa xaraar baa qabtay sigaarka ii dhiibay oo ka qaatay iyar kadib wuxuu yiri xamso dhulka ila wareegaya isagoo qoslay ereyga marka imika hore wax ka mid ah isagoo dhoola cadeeyay yiri xamso waxbay siiyeen qosol baa ku jirta marka nimanku waxbay siiyeen marka ninkaasi aduu marxafadii baan geynay waanu qaadnay isbedelay gurigii markaan geynay ilaa 10 iyo 11 markaa tahay marka waa 7 xilligu sigaarka noogay 11 baa caadi noqday markii buu yiri nimanku waxbay siiyeen maxaad ii qaban weyday tabanin qosliyaan wax ka qaada ninkan iga qabo isaguna qosliyay marka laba nin oo iska kaftamayo iska ciyaaraya ayaan u haystay waad arki kartaa marka dhakhtarku halkii noo sheegay qofku waxay gelinaysaa farxad qeyr caadi ah qaadku soo lamin waka qaadkuna waa kan daaraha farxaan kadib maxaa leeyahay marka cabaar gaadhay oo yar dhil diiriye waka marka ugu dambeysay maxaa leeyahay calaacal sama daayadii si joogtay naf muxuu leeyahay qoladii door naf meel ka baxday weeyday weeydaa mirqaansayntu meel yaro kulul kala naqaska iska xura hawlaha soo dhan marka su'aalo weyn oo furan yihiin farta taaga waa yahay adiga ugu horeeya soo istaag marka waxaan doonayaa laba su'aal inaan weydiiyo doctorka ma laga daweyn karaa qofkan xashada daa'imay ama qofka xashada caba ma leeyahay daawo
uu kaga kaban karo oo uu ka saari karto jidhka xashada uu cabi jiray su-aasha labaadna waxa ay tahay saameyn ma ku yeelan karaa qofkii xaas wuu yeelan karaa markuu xaaska yeesho qofkii xashada lahaa saameyn ma ku yeelan karaa xaaskii iyo ilmihii dhalan doona mawlid rashiid doctorka waxaan weydiin lahaa baasha xamar laga isticmaalo taabuugta la idhaahdo inaad garanaysid baan u maleynayaa bangaadhish xaggana waa laga isticmaalaa maxay dhibaato leedahay laakiin marxaadiraadka ugu badan maanay ka mid ahayn doctor siciid gudoomiye siciidna waxaan weydiin lahaa farxaad beyti gudoomiye siciid giibsigaan uga imacaawa dhowr jeer baan daawaday etoobiyana waan ka imi markaa doctor siciid waxaan weydiin lahaa weli qiimeyn ma ka samaysan qaadka idhaa miiroogo dhibaato badan ku hayo soomaalida miirooga uu ka daran yahay dadarta oo qofku markuu miirooga cuno siduu yahay waa la wada garanayaa kolley siciidna wuu garanayaa aad baan islaamaya su-aasha ugu hore doctorkan weydiin lahaa su-aashiina kaasuma kusii daba socotaa treatment balance saxa ma leedahay baashan xashiishada imika aadka inoo waashay oo qofku uu kaga jirkiisa ay kaga bixi karta ma jeeda dawo ku dhaata laakiin treatment balaanoo muddo soconayo qofka ay lagaga daweyn karo ta kale ma jiraan meelo rehabilitation center oo qofkii la geyn karo mukhaadaraadkaasi ay saameeyeen haddii jiraan aad mid iyo laba nooga sheegtid markaa gudoomiyahana horta waxaan weydiin lahaa isaga su-aalo adaguma hay waxaan weydiin lahaa un xarun ma leediin oo ladinku iman karo dhalinyar ahaan aan wixii juudiya ama hadday noqoto cududeeda aan idinku dari karno ama wacyigelinta markaa qaadasaan oo kale haddii xarun aa leediin ay jirto ama lambaraan lahdin kala soo xiriiri karo aad baa mahadsantahay runtii laba su-aalood maan weydiinayaa dhakhtarka labada su-aalood waxay yihiin kow hooyada ilmaha nuujinaysa haddii ay xashashadii barato ama ay bilowdo ilmihii saameyn ma ku yeelanaysaa ama ilmi ma u gudbi kartaa oo yacni ilmihii wax saameyn ma u gaarsiin kartaa xashashadii su-aasha labaad aan weydiin dhakhtarka waxa weeye qofka hadduu yaraan ku bilaabo kale ama isagoo daayar uu bilaabo iyo hadduu isagoo matalan 30 jir ama wixii ka weyn uu bilaabo farq intee leeba u dhexeeya ama dhibaatada u geysanaysaa intee leeba gaarsiin tahay laba su-aal waa kuwa waxaan in yar ka daba tegi lahaa hadalkii gudoomiye siciid runtii waxaa jirta waddankeena inta badan kantaroolaa jira askari joogto inta badan baabuurta lagu baaro la joojiyo anigu waddanka bari iyo galbeed waan uga baxay Itoobiya hadday noqoto iyo hadday Soomaaliya noqotoba inta badan aan mariyay kantarooladana waxaa jira badan askarteenu ma baaraan alaabta gawaadhida saaran iyo dadka inta badanba waxa laga yaabaa inay shirkado jiraan dadka qaado transportationska alaabta iyo dadka qaada waxa laga yaabaa dadka shirkadaha inta badan ee alaabta dadka qaaday inay alaabta qofka haystaan inta badan baarin waan runtii dhibaatooyin waddankeena ka taagan waxa laga yaabaa qofkiinan amnidu in la saaran oo aan wuxuu sito iyo wuxuu yahay la baarin askarigu intuu daaqada albaabka furaamo daaqada ka soo lagu assalaamu calaykum tuura calaykum salaam dadnu iska noqdo runtii waa mushkiladuna taagan waddankeena ka jirtan oo wadamada kale aan ka jirin Itoobiya runtii waxaan filayaa inta badan dhakhtarka iyo gudoomiyuhu kale way arkeen control kastood gaadho waa lagu baaraya xataa waxa jira wadooyinka qaar askar iska taagan wadooyinka jirtaan control ba joogno ku baaraysa taas runtii waxay ka qaadanaysaa amniga iyo in waddanka la wado wixii soo galay wixii ka baxaya marka runtii waddankeena noocaad aragtaa in maanta halka ay muddo ay ku liitaan ama ay ka dhiman tahay insha Allah waxaan rajeynayaa inay dadkeena ay ku baraarugsanaan ay gaarsiiyaan mas'uuliyiinta iyo askarta insha Allah ta'ala intaas soo go'aanay assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah barakallahu fiikum su'aasha hore waxay ahaydeen maroongiga iyo ka kale waxay sheegaan dadka takhasuska leh bahalkan horta wuxuu maadada uu sheegay catenin qaar bay yidhaahaa maadadaas oo vitaminka ah ayaa horta baasha bahalka loo cunaya loo murqaamaya murqaanka waxa keenaya waa kaa waxa la yidhaha baashaas markaa waxay neceb tahay ama ay ku dhimataa oxygen-ta iyo elayska waxaa la yidhi markii geedka ku taallo meeshay ka dheer tahay oxygen way ama kor loo kaco maxaa intuu soo yaraanaysa elayskuna awoodiisa uu soo yaraanaya marka kor loo kacaba meeshay ka sarreyso way ka murqaan badantay way ka catenin badantay meesha ka sarreyso catenin iyo catin baa jira catinta mid walba ku taalaayoo
katinonta waxay ku taallaa baa layidhi curubta yaree la cunaya wadinka arka curub baa la cunaa geedka intaa la eeg baan la cunayna waxa la cunaya curubta la cunaya laakiin katintu macaa ku jirtaa baa layidhi macaa usha ayay iyadu ku jirtaa iyo baalasha iyo meel walba ku jirtaa marka iyada tani waa weeyaan tawaalida keenaysa khatarta markiiba waa tan marka waa arko keena waxa la balbaleeti baa la yiraahdaa qaadka waynu beeraynagu qaadka maxaa la yiraahdaa balbaleeti maxaa loo leeyahay maxaa waxayaan waalidii degdeg ahayd ee markiiba la gaari lahayd marqaankii ayaanu lahayn sababtoo waxa weeyaan meel hoos uu ka baxay biyo ku filan lama siinin marka meel markaas marka wada ogtiin de meeshan ka baxeen meesha gobol maxaa la maronga ma la yiraahdaa meesha magaceeda la yiraahdaa maronga meesha ka baxa la yiraahdaa waa area Kilimanjaro waa meelaha ugu sarreeysa Afrika ka mid tahay laba boorood ba Afrika barigan juqraafi dhigan jiray ugu sarreeyo iyada iyo mid kale oo Kilimanjaro tawti kala tumayd marka meesha ka sarreeysa marka uu ka murqaan badan yahay marka hadduu ka murqaan badan yahayna muxuu uu ka waali badan yahay meel marka murqaan badan yahay uu ka waali badan yahay meesha galbeed ka xigto way ka waali badan tahay meesha galbeed ka xigto way ka waali badan tahay Soomaaliya xamar imka warmahayo wax dhulkii Soomaalida la isku oran jiray meesha uu murqaan badan ee ugu waalid badan oo Hargeysa ay ahaan jirtay ilaa imka Hargeysa ayaa ugu murqaan ugu waalid badan nin la yiraahdo Bashiir oo xarunta sahan la yiraahdo jooga ayaan mar weydiiyay waraystay TV-ga waa ka daawan kartaan TV-ga bulshaan ku waraystay YouTube-ka ku jira urur ma leedihiin baan ku yiri intee baa leegteen wuxuu igu yiri afkiisaan ka hayaa marka 4 sanadood baa imka laga jooga wuxuu igu yiri 170 xarumood oo dadka waalan lagu hayo ama cilaaj lagu sheego ama clinic lagu sheegay ayaa Hargeysa ku yaala buu yiri dhaqaatiir badan way asraareen waxaan war waxaas ma jiraan waa laga badbadiyay laakiin ogaada imisa cilaaj baa meel walba xaafadoon gali imisa cilaaj baa ka jira cilaajkani wuxuu koona qol wal markaa u tagto wuxuu kooranayaa 80% ama 90 dadkan waa dadkii qaadka inta kale waa ama qof maskaxda wax ka qaba ama qof jin iyo wax kala daareen weeyaan laakiin se meel wala tagtaaba waxay kooranayaan dadka waxa waalay soo waalay wax kale maahe 90% waa isaga soo dadka raanka ma marka bahashani marongigu uu ka khatarsan yahay keenayaan oo de kan cunay halkan ku hayn uu ka khatarsan yahay su'aasha kale waxay ahayd meel idinku soo xafiis baan ku leenahay halkan geersha waadankii hore ayaa garanay halkan Ibrahim Dheere taariikhka ka xigto qolo iqra marnayo halkaas aan xafiis ku leenahay insha Allah karin qofkii numberkeena uu heli karaa waan ku aragtay meelaha waad ku arkaysay numberkeega borderkii uu ku qoran yahay marka aad baan u soo dhaweynaynaa qofku waxa muhiim ah inuu isagu istiro wuxuu sameyn karaayo isagoon cidna u daba fadhiisanin afkaartana in la isu ururiyo meel la isugu ururiyo runtii anagu daraasad ilaa imka maana sameeyno daraasad waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay mid labaad ee jaamacadaha iyo maxaadada ayaa iyagu fududahay haddii aanu kiraysan lahayna dhaqaale nama soo galo volunteer baan ahayn waanu u bandhignay xukuumadda inay xogaa daraasad lagu bixiyo inay noo ogolaadaan insha Allah khayr baan ka rajaynaynaa laakiin dadka la doonaya mustaqbalka anagu sii soconnaa dadka mustaqbalkana waa idinka loo baahan yahay inay u fikirtaan sidii waxaan uga hortagi lahayd barakallahu fiikum bismillaahir rahmaanir rahiim waan soo koobi doonaa su'aaluna badankooda way isku soo overlap gareynayeen macnaha way isku soo laalaabteen su'aasha ugu horeysa waxay baa maleynayaa horta dawo sax ma leedahay xashiishadu oo qofka inta la siiyo uu kaga bogsanayo inta qofka dawada la siiyo hadalkaygii hore waxa ku jirtay xanuunadani waxay buugga ugu leysgaraysan yihiin xanuun ahaan marka waa inay daawo yeeshaan xanuun kasta waa inuu buuggu sheegaa
maadaama uu xanuun yahay sida loo daweynayo iyo sida loola tacaalayo. Xashiishadu 3 marxaladood ay dawada u baahataa. marxaladda koobaad waxa weeye marka ay keento waxa la yidhaha intoxication, marka uu qofku isticmaalo intii jirkiisu xamilayn ka badan. markaasoo kale qofku wuxuu u baahan yahay in la sameeyo emergency service wax la yidhaahdo. waa in uu qofkaasi helaa haddii intoxicationka lagu daayo qofka laga yaabo mararka qaar inay dili karta xataa. waayo inaga sheegnay garaaci wadnuhu xadka ka saaraysaa. qofku wuxuu sameynayaa haraad iyo gaajo fara badan. taas marka qofku wuxuu u baahan yahay in la daweeyo xaaladda. dawada emergency-ga qofku wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo dawooyin dejiya garaaciisa wadnaha. haraadkan iyo gaajadan faraha badan uu dareerin in la contain gareeyo si qofkii macnaha la kaantaroolo la hakiyo si aanu qofku maarta naftiisa u dhaawicin. haddii markaa qofku uu gaadho inuu miir doorsoomana waa in miir doorsoonkii u baahdo naqas qofka in lagu rakibo, oxygen la siiyo, maxaa la yidhaahdaa laga ilaaliyo qofku had iyo jeer markuu qof miirkiisu tago uu matagaa. markuu qofku cuntada isku daldalo uu matagayaa. matagana waxaa la socota saxasho, hadduu qofku saxdana khatar buu geli karaa. markaasoo kalena qofku wuxuu u baahan yahay in dawooyin dejiyan qofkii matago ama aspiration waxa la yidhaha qaado in laga hortago. marka waxaa la yidhaha xaaladaasi dawo gaar ah oo la yidhaha dawo heblaayo had iyo jeer ma jirto, laakiin wuxuu u baahan yahay in xaaladiisa guud si emergency loo kaantaroolo. xaaladda labaad waxa weeye qofku marka uu rabo dawadii maxaa la yidhaha draggii ama xashiishadii inay jirka ka baxayso, markaana qofku mararka qaar halis buu keeni karaa. taasna iyadana waa la kaantaroolaa oo tallaabooyin dhowra oo wax la yidhaahdo faleemooyin gaara iyo qofka qaar maaragtay jirkiisa joojinaya iyo qaar qofka inta jirkii xaaladii cuslayd ay ka baxayso yaraynaya ayaa iyagana la siiyaa. marka xaaladdan qofka waa la daweeyaa. xaaladda saddexaad waxa weeyaan raadka ay ka tagto xashiishadu daweyntoodu waa ta ugu waqtiga dheer leh. taasi had iyo jeer waxay u baahataa wax la yidhaahdo motivational interview qofka in loo sameeyo. motivational interviewguna jaranjarooyin ama 4 marxaladood ayuu maraa. motivational interviewgu waxa weeyaan qofka in uu marka koobaad uu diyaar u yahay inuu qofka joojiyo. 4 xaaladood baa la yidhaha. xaaladda koobaad waxaa la yidhahdaa pre-contemplation. macnaha waxay noqonaysaa af Soomaali haddii inuu bedelno qofku in aanu xataa kaba fikirahayn xashiishada inuu joojiyo, ma joojin karaaba xataa qalbigiisa inaanay kusoo dhicin. xaaladda labaad waxaa la yidhahdaa contemplation. waxaa qofki in uu ka fikirayo ama uu mala awaalayo, ma joojiyaa, ma iska isticmaalaa, maan daayaa, maan wadaa ayaa la yidhahdaa. xaaladda saddexaad waxaa la yidhaahdaa decision. xaaladda saddexaad waa decision. qofkii go-aan buu gaadhay, wuxuu rabaa inuu joojiyo isticmaalkii xashiishada. halkaas markuu qofku soo gaadho ayay daweynta bilaabmaysa. xaaladda afraadna waxaa la yidhaahdaa maintenance. inuuna qofka relapse ku dhicin, inaanu dib ugu noqonin, oonu xashiishadii dib u isticmaalin. labada xaaladoodee hore qofka waxba lagama qaban karo. qofka haddaanu maskaxdiisaba kusoo dhicin ma joojiyaa mise waan wadaa, waxba lagama qaban karo. laakiin xaaladda labaad ee odhanaysa maan joojiyaa, maan wadaa, taasna way adag tahay in wax laga qabto. qofku markuu kuu yimaado yidhaahdo maanta waxaanu diyaaray in xashiishadii joojiyaan isticmaalo, markaasay daweynta bilaabmaysa. markaasuu motivational interviewga bilaabmaya. daweyntu markaa waxay ka bilaabmataa had iyo jeer qofka waxaanu siinaa exercise. marka koobaad qofkii yimaado motivational interviewga u bilaabo, warqad baanu dhiibaa. waxaan ku dhaha warqaddaa qaad, waxaad ku soo qortaa dhammaan faa'iidooyinka ay leedahay xashiishada inaad isticmaashid iyo dhammaan khasaaraha ay leedahay ama dhibaatooyinka ay leedahay in xashiishada isticmaashid. ii soo qor, berito la subaxan ay keen. qofku uu tegayaa, labadii warqadiisaasan dhexdan ka kala qaybiyey. halkan waxaan ku qoray advantage, xaggan waa disadvantage. faa'iidooyinka iyo khasaarayaasha ama halisaha iyo wanaagyada waxyaabaha ay keeni karta labadaba.
haddii marka qofku uu ii keeno maalinta beritoole marka la balamo ii yimaado hadduu ii soo qoro 20 ama 30 faa'iido oo xashiradu leedahay marka la isticmaalayo iyo 3 ama 4 shay oo khasaara qofkaasi diyaaru ma aha inuu joojiyo waana adag tahay in qofka dawladda loo bilaabo haddii se laakiin uu ii soo qoro 3 ama 4 faa'iido keliya oo dhahdo okay 3 maybe dadkan ku dhex gala habina waan yara dareemaa waqtigan isku yara dhaafiya laakiin uu ii soo qoro 50 ama 60 khasaaro oo ay xashiishadu leedahay qofkaas oo qof diyaar in la daweeyo halkaas ka bilaabmaysa marka interview tibsana qofka maxaan sameynaa waxaan u bilownaa the real waxaan idhahnaa okay diyaar baad inaad joojisaa intan oo khasaara qor jeebada gasho sida warqadda halka imika uga soo kala jeebada ugu haysanaysaa mar kastoo kugu soo dhacdo ama craving waxa la waxa ugu daran in la manage gareeyo craving waxay hamuunta mar kastoo hamuunta kugu soo dhacdo warqadda dir la soo bax limsa khasaare leedahay intaas marka waad garanaysaa dhibta ama halista ay ku keeni karto dadana waad joojinaysaa markaasaan qofkaas dabeetana waxaan barnaa siyaabaha looga fogaado sidee baad uga fogaan kartaa dadka jaranjaray leedahay marka ugu horeysa sidee baad isaga ilaalin kartaa inay ku qabato waxa la yiraahdaa triggers of craving inuu hamuuni ku qabato sidee baad uga fogaan kartaa wadadii aad ku isticmaali jirtay amarin saaxiibka ay kula isticmaali jiray hal la hadlin telefoonka isticmaali jirtay bedel wada kasta ama dariiqo kasta oo aad maalin uun ku aragtay ama maalin uun qalbigaaga ku soo dhacday ha u dhawaanin ka fogow marka dawada dhabtaahi waxay ku base garaysan tahay motivational levelka qofku halkuu maraya maanta diyaar mooy markaas man caawin karnaa laakiin se xabad kiniina ama xabad irbada qofka inta la siiyo ka joojisa dhammaan maandooriyaashu way ka sameeyeen taa inta qofka lagu siiyo lagu xabada qaada kiniinka ama irbadaas lagu siiyo ka joojinaysa haba yarata dunida meel ma jirto management kiisa waxa la motivational interview waxana la eega afarta xaalado qofku halkuu marayo inuu qofku aanu hadal haynba inuu hadal hayo inuu go'aan soo gaaray markuu go'aan soo gaaro kadibna waxaan maintenance relapse prevention baa leedahay inuu qofku ku laabto oo dib u isticmaalo marka horta daweynta loo hayaay dhammaan mukhadaraadku ay kamid tahay ama maandooriyaashan dhahday kamid tahay xashiishadu waa taas su'aasha kale idina hoos gelisa treatment balaanka dawadaba israacin labada saasan ku dhaafaya su'aasha kale soo xigta waxay ahayd xaaska ama caruurta muxuu ku yeelan karaa xaaskan ku horeynaya dhibaato muu leeyahay hadduu xaas leeyahay oo uu isticmaalo xashiishadii dhibaato ma leedahay waxaa la yidhahdaa the number one gaalada waxaan sexual dysfunction bay yidhahdeen qofkii in uu hamahaan amaba uu hamoonba waayo ama uu dareenkiiba waayo ama marmarka qaarkeedna intuu caqligii tago uu qofku kala garan waayo meeshii saxda ahayd labada xaaladoodba way keentaa mararka koobaad waxay keeni kartaa qofkii uu bilowgaba ay tahay in qofkii hamo غير macquula u dareemo marka ugu horeysa qofkaas taasna waxa la yiraahdo sexual indiscretion ku dhaco qofkii uu kala garan waayo xaaskii iyo sinadii iyo xumaantii iyo xanuunkii iyo qofkii xanuunka kala qabay meel walba markay la gasho marka dadka walxa isticmaala 90% ma oran karaa xanuunada lagu kala qaado galmaday qabaan geebigoodu waayo isma oga goor qof miirkiisu waa tagsan yahay hamadiisana way khaldan tahay wuxuu dareemayaa marka hamadiisana khaldanto dadana uu meeshu doono ku dhaco dadana uu god kasta ku dhaco dadana soo qaado xanuun galmada la isku qaadsiyo anyone kuwa ugu khatarta badan leh hadii uu sii wado walxadii joojin waayo marka dambe qofka waxa ku dhacday sexual dysfunction totally qofka hamadiina ka guurtaba dhammaan dareenka qofka inuu tagaba waxba ma dareemo marka taas ay ku leedahay qofka xaas kale ama khatarta ay leedahay qofka maartay hamadiisa ama qariisadiisa ama dareenkiisa dhibaatada uu keeno waa labadaas halisood isku jirta ta kale su'aasha kale aan raaciyo haddii okay su'aal kale jirto oo dhan sameeyay haddii hooyadu ay isticmaasho maxaa dhici kara ilmihii yaraa ee caloosha ku jiray ama kay dhali rabtay maxay u yeeli kartaa taas inaan raaciyo waxa la yiraahdaa caruurtu markay dhalanayso waxa la qiimeeyaa
ilmaha koritaanka intrauterine growth bay gaalada la yidhahdaa koritaanka uurka ee ilmaha intuu caloosha ku jiro waayo wax laga rabaa bil kasta xubno jirkiisa ka mid a ayaa ilmaha kora ilaa iyo 9 bilood intay dhammaanayaan oo ilmuhu dhalanayo qaybo jirka ka mid a kora xilliga ay bilowday hooyadu ku xiran tahay haddaba haddii hooyada iyadoo uurle ay isticmaashay xashiishadii waxay keentaa xididada ka tagaya madheerta ama balaasanta waxa la yidhahdo ee ilmaha xuduntiisa dhiigga siinaya inay joojiso ilmihii markaa dhiig nafaqali tegi waayo dabeetana waxa la yidhahdaa intrauterine growth retardation ama ilmihii inuu ku kori waayo uurkii hooyada dabeetana ilmihii laga rabay ilaa 3 kiilo inta u dhaxayso ku dhasho inuu 1 kiilo ama 1 kiilo iyo bar ku dhasho marka taasina si dhaba ay u saamaysaa ilmaha ku jira caloosha marka ilmihi rasaas u saameynaysa su'aasha kale waxay ahayd maada laga isticmaalo muqdisho la taabuut ama taabuuth horta runtii hadalkaaga bay tahay in taabuut muqdisho laga isticmaalo laakiinse waxa jira magacyo u dhow oo kuwan oo kala oo xashiishadan ka hadlano magacyada wadamada kala duwan iyo magaalooyinka kala duwan looga yaqaano ayaan u malaynaya in xanuunkan ay ka mid tahay macnaha inay ka mid tahay kelmadani oo ay tahay un xashiishadiyo magac kale loo bixiyay way magacyo aad u kala gedisan baa loo yaqaanaa runtii marka taas halkaasaan ku dhaafaya su-aasha ugu dambeysa waxay tahay early startka macnaha hadduu qofku isticmaalo isagoo yar ilmuhu iyo haddii isagoo 40 jir ama 30 jir isticmaalo isbedel intee leeg ayaa dhici kara waynu sheegnay physiologiga koritaanka maskaxda bini'aadanka sida ay u bedesho baashani waxaynu sheegnay cognitionka qaybta xasuusta iyo koritaanka inay saamayso waxaynu sheegnay fariin qaadayaasha ama neurotransmitterska maskaxda inay saamayso waxaanaynu ognahay qofku inta uu yar yahay ilaa 40 intuu gaarayo in koritaanka maskaxdiisa iyo jirkiisuba hataa ay weli ay socdaan taasi waxay keenaysaa xilligii uu bilaabay problemku in maskaxdana ay halka khaladku ka soo bilaabo taasina waxay keenaysaa in qofkii hore u bilaabay dhibaatooyinka aynu sheegnay ee xanuunadii aynu sheegnay oo dhan goor hore ama goor aad iyo aad u horeysa oo la kulmo marka loo qiyaaso qofka mar dambe bilaabay laakiin kan qudhiisa marka dambe bilaabay hadduu muddo badan sii wado isaguna halis uu ku jira laakiin se ka dhaqsaha ku bilaabay intuu jirkiisa iyo maskaxda iyo dareemayaashiisa ay korayaan bilaabay kaasa ka halis badan ka bilaaba goorta dambe ayaan kole gudoomiyaan waan yar dhiibi kole qodobadii u dambeeyaan ku soo gabagabeeyo dawladnimadu hal faa'iidana way leedahay in yaroo khasaaro hoos jiraan oo jira waxyaabaha ugu badan imka leena wax kamid ah sharciga gacanta ku qaadanay Soomaa taas waxay keentaa isku halayn fara badan in haddaad aragto qof xumaan sameynaa maxay boolisku wax uga qaban waayeen maxay amnigu wax uga qaban waayeen ilaa imka ay ku soo socoto in tuugtu ay ku soo socoto inta qofku tuugu waxa uu kala carraana cidba ka daba tagin waa dawladnimo haddana waxyaaba ay leedahay marka inagoo dee dawladnimadii aan ka tegayn haddana wanaagii kale maxaa qofka soo xumaan arkaa hadduu gacanta wax kaga qaban karo ha kaga qabto haddaanu kaga qaban karayn oo wax kale ay noqonayso afku muu dhibayaa mise lindhanaan baa laga baqayaa mise ta u dambaysana waxa weeye haddii afkaan wax lagaga qaban karayna inaad uurka ka nacdo 4 caqabadood wuxuu inoo sheegay gudoomiyuhu adag waan isla qaranay mukhadaraadka dhibta leedahay iyo xanuunka leedahay waan isla garanay dhibaatada iyo xanuunka leedahay marka caqabadu inoo sheegay caqabadaas marka ku in wax kaga qaban karno caqabada koowaad wuxuu inoo sheegay niyad jab inuu jiro oo macna dadku ay soo dhiibeen qodobka labaad wuxuu inoogu daray dhaqaalaha dalku inuu soo ku xidhay waana common inayna cashuurtuba reero badan baa ku biishada iyo tasaxaada mas'uuliyiinta qaarkood isticmaala iyo ta u dambayso ah daraasad dhaqaalan u baahannahay marka 4 qodobba waa 4 qodob u baahan tahay inaynu dib intaan isku noqono aynu baadhno taa diyaar moonay hadda mukhadaraadku dib loo sameeyay isla qaadan inay joojino gudidii gacanta ku haysay 4 qodob bay sheegeen macnaha halkeen caawa ka guurayna ee qofka saaba markuu guriga ku noqdo uu ka shaqo tagay maxay 4 qodob sideebaynu xalkiisa ugu raadinaa soo wardan maaha ta kalena caawa faa'iido waxa weeye
qofka gurigaaga jooga dhalinyarada si aynu uga warhayno haddaad artay isagoo indhuhu casaadeen afku yaro qalqalaleen gaajo badan shaki baa ku jira markaa in dabagallo aan kusoo gabagabeeyo waxaan filayaa waqtigiina waa iska gabagabo u dhacay 10 bay gaadhay marka waynu ducayn doonaa inoo ducee sheekh bismillaah waxaan doonayeen waxaan xasuustay dhisiiskan markay isqaadsiinta iyo muqaddaraadka waxa ka dhaxeeya waxaan mar waraysi ka qaaday Dr. Cusmaan Cabdi Meegaag Cusmaan Cabdi Meegaag wuxuu hayaa ka yahay director isbitaalka TB-da marka TB-da iyo waxa ka dhaxeeya muqaddaraadkan aan weydiinay marka isagu qaadka wuxuu yiri waxa weeyaan wuxuu casuuma kelmadaas uu isticmaalay qaadku wuxuu casuumaa wax alla wixii xun oo dhan tusaale naga siman wuxuu yiri TB-da wuxuu yiri dhowr iyo 300 googa baa ku jira buu yiri marka TB-da dadkaasi waxay u dhaxeeyaan buu yiri dhowr iyo 10 ilaa dhowr iyo 30 waa intii dadka xoogga lahayd shaqeynaysa weeyaan oo doctor dadka intaas waa intii xoogga lahayd bahashu tii loo jiray dadka nafaqada jirkooda leetay ayay ku dhacdaa wuxuu dadka nafaqada waxay ku dhimatay muqaddaraadka isticmaaleen markuu qofku muqaddaraad isticmaalo cunto cuni maayo nadaafadiisa ilaalin maayo dabeetana waxa hoos u dhacaya difaaci jirkiisa hoos u dhacaya dabeetana meel bay wada fadhiisanayaan qaadku dhibaatada uu leeyahay iyo muqaddaraadka dhami dadku way isu keenayaan markuu dadka isu keeno ayuu dabeetana is wada qaadsiinayaan dabeetana waxa sahlan inuu markaa galma aan sharci ahayn oo far badan markaa in la sameeyo oo qofkii saa doctorku sheegay qaadkuna waa la mid ama laba qof mid uu noqonayaa qof markii soo ilaahay kan ay siiyo bahalkan kicinayo oo dabeetana doonayo inuu ka soo dhaweynaya dabeetana wuxuu doonayaa inuu galmoodo doonaya qofna wuu ka laalaabaya marka hore kalabsi waa ku dhacaya marka labadaba way xun yihiin oo marna reerkii baa ku burburaya hadduu kalaab qofkii burburo hadduu ka siyaado ku sameeyana waxa doonaya galgal fara badan ma keenaya marka wuxuu yiri qof kasta oo TB laga helo waa in AIDS-na laga baara waa qaacida taala qof kasta oo TB laga helo AIDS-na waa laga baaraya marka waxa weeyaan wuxuu keenayaa muqaddaraadka dhan wadiga arko way isu keenayaan dabeetana wixii oo dhan waa la wada qaadaya wixii dhisiiskii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga dul qaado isaga subhanahu wa ta'ala isaga awood leh inuu inaga dul qaado waliba geedka qaadka leh ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qulubta ummadeena ka saaro iminka waxay marayaan iga soo ducee marka dad war maxaad cunaysaa dhibtoo dhan buu ku sheegaya doctor ku sheegay bariga hore nin waliba wuxuu ku jiro waa amaani jiray nin waliba wuxuu ku sheegay intaasoo amaanadu baal ku leeyahay maanta waa laga tago wuxuu ku leeyahay qof walba wuxuu ku leeyahay intaasoo dhibood buu leeyahay iga soo ducee marka waynu duceyno qofka qaadka cuna ee ehelkaaga waxa uu doonayaa in qalbiga looga duceeyo oo isagoo ka hor jooga looga duceeyo oo isagoo ka maqan looga duceeyo inaynu wadankooda inaynu horta ilaahay isku xidhno subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay barino ilaahay min horta baryaynaa marka labaad ducada waxaan ku daraynaa dee feejigaanta uu sheegayo xamse oo waxaa laga hayaa ninkii la odhan jiray Sheekh Bashiir miyaa maqasheen maamaada laga hayo waxaa la isku qabtay isticmaalkii sidii loola dagaalami lahaa dabeetana dee diinta ayaa markaasuu yidhi inta dum isugu yeedho wuxuu yidhi war bal soo fadhiisto bilaalaha qur-aanka akhriyo ku jabiya bilaalaha bal qur-aan akhriyo ku jabiya buu ku yidhi soo fadhiisto dabeetana waa la akhriyo dan iyagoo yaabsan dabeetana wuxuu yidhi bur buu soo qaato ku dhuftay ku dara yaa ficilha lagu dara buu yidhi war ficilha lagu dara buu yidhi marka waxa weeyaan waxaan u baahanahay inaan ficil ku dacwadayno ficil ku daro ilaahay noo ka baryayna inay ducada ku marno ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم